السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري بعد أصحاب قالي قهوة مركلي مقال كله عصب يعني ولاش السوداء سلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنتم حنين هو ضادي الله ما أنتم حنين هو متقنين قصة ويل سوماليات gabadhii ahayd hodan qisadeedii markaan ka sheekaynayay qiso Soomaaliyeed ugu dambeysay waxaan idhi garan maayo anu wiilashu waxay qisooyinkooda u soo gudbin lahayn ilaa wiilashu qisa way ku dhacdaay hadda maanta qiso wiil Soomaaliyeed oo kulul oo dabka laga soo qaaday baan idin wadaa ma garateen muuqaalada markaa ama qisooyinka Soomaaliyeed qisooyinka kale waad ka jeceshihiin waad like garaysaan videoga commentigiisu wuu bataa like-tiisuna dee ma sha Allah kor ay u kacdaa saas darteed maanta waxaa idinka doonayaa muuqaalkan inaad ala Soomaalinimo u like garaysaan intaas kadibna wiilkani wuxuu yiri qisadeeda markaad dhageysataan asxaabta sawda qaalibo qof kasta waxa alaale wixii ra'yigiisa ah ay kula soo taliyo talo ay u baahan yahay oo yacni talo iyo tusaale u baahan yahay xaalad baa ku jaha wareersan talo rabaa marka commentiyadaas faraha badan dadka malaayiinta meesha daawanaya waxaan leeyahay boqolaalka meesha daawanaya waxay u soo qorayaan commenti dadku isku fikir ma aha dad fara badan midna kun qof haday comment soo qorto waxa laga yaabaa dadkaas isku wada ra'yi ma aha laakiin inay intooda ugu badan wax isku raacaan qofkuna waxa uu qaato dad fara badan oo waxa jira Soomaaliyeed oo sheekooyinkooda ka soo sheekaynay oo commentiyadiina intay akhristeen talooyinkiina qaateen kulliibaanay oo ku najaxayde oo idin soo duceeyaa 24 saac alla maxaa la idin soo duceeyaa ilaahay ducada ha idin aqbalo anigana khayr Allah ha isiyo laftirkayga sababtoo ah dadkaas iyo idinka أنا إسكوكين حري سماها أنا جنا هلا يسوع دعي خير الله يسي آمين إن شاء الله تدفر بدن بقى يدين سو مهد عليا أصحاب تدقالي ويدين سو دعي المهم رال النقطة هور دعوان كل راضي ويلكم حين مو بحنينا سعيد ويلكن ودمضى سيوروب متكم إذا أيوتشوجا وحين وصل بلاوي أشياء كذا مركب بلو من بلو بينو ليش يسسينو وحولبه سفي عن أين أوفهمنا ويلكن ودن كالصومالية تولوين كيس متكم إذا مال يعني إسكبادي وكلا عمل أها بنوحر كل شيء أنا غير oo caruurta iga yar marka hal wiil uu yahay aniga iyo walaalkay oo isaga weyn oo reerka curud u ahaa iyo walaalkii oo ka yar baan ka soo guurnay tuuladii waxaan soo degnay magaalada Muqdisho markaan soo degnay wuxuu marka ayeeday baan la soo degnay ayeeday iyo waxa isla deganaa guri iyo aniga iyo de familkay hooyadii aabihii iyo walaalkii iyo ayeeyo aabahay baa geeriyooday markaan xamar sidaa u soo degnay wax yar kadib aabahay wuu dhintay aaba markuu dhintay geeridii aaba wax yar kadib intaan malaha sanad bala gaarin dii wax yar kadib uu geeridii aabo hooyadii baa hadana la waayay maamadii marka mar dambe la ogaaday inay tahriibtay oo Sacuudiga tagtay caruurtii maamada kaga dhuumatay ayeeyada baa wuxuu markana korin jirtay hooyadii halkaas Sacuudiga lagu sheegay laakiin de hooyana soo raadiso na soo wacdo caruurtaydii may noolyihiin xagee ka baxeen midna ma dhihi jirin laakiin waxa la sheegay in Sacuudiga joogto dad baa yiri waa Sacuudiga ku aragnay wuxuu marka waxana soo korisay ayeeday aaba dhashay adeerkay buri oo garaash leh oo magaalada Muqdisho degan oo shaqaysto reer loo meel degan baan biili jiray marka oo lacag biilana siin jiray aniga walaalkayga iga yar iyo ayeeyo adeer baan biili jiray gurigii ayaan iska joognay wax yar anigu markaan soo weynaaday buuran 10 sano soo gaadhayba waxaan bilaabay adeerkay intaan u tagay inaan ku dhahdo garaashkan kala shaqeynay adeer waxaan rabaa inaan kula shaqeeyo biraha barto bilihii hore iyo sanadihii hore biraha soo dhiidhiyay boolash iyo waxyaalaha yararka furfur taayir meel laga soo qaaday yani shaqooyinka yaryar baan qaban jiray markii dambe shaqo in la ii diraaban bilaabay markaan soo gaadhay 12 sano 12 sano 13 sano nin dhan waxaan noqday bul shaqeynaya lacag baa markii dambe la isiin jiray lacag baa soo saari jiray adeerkay waxaan ku ayeeyo iyo walaalkay ana biilayaba sababtoo caadi baan u shaqeynaya wuxuu markii dambe shaqaalihii garaashka ka shaqeynay baan ku beeray caadi baan u shaqeysan jiray walaalkaygii yar markuu isaguna sida u soo gaadhay 12 sano garaashkii uu ku soo beeray walaalkay baan wax baray aniga walaalkay baa isla shaqeyn jirnay adeer baan la shaqeyn jirnay waan waaweynano birihii baan ku dhex kornay rag de gabigooda makaanikiin farta ka xirana oo si fiican baaburadan iyo birahan iyo waxaan u garanaya oo wax walba yaqaanaan noqonay adeer baan si fiican ula shaqeyn jirnay biilkii oo ayeeyo siin jiray wuxuu adeer noo tiri jiray wuxuu mar horaan ka maarnay anu kaligay shaqeeyaba oo walaalkay wali uu shaqada ku soo biirin baan ayeeyo walaal anigu ku filaaday oo ku yiri adeer ana mas'uuliyadaas la wareegay wuxuu markaan waaweynanay walaalkayna gaar buu lacagtiisa u urursan jiray ana gaar baan waxaan lacag u urursan jiray waxaan cunaynay iyo biilka xaafadda markii laga saaray ayeeyo waxaan ku biilayno lacag baan urursan jiray wuxuu yiri si fiican baan lacag u urursan jiray ayeeday gurigii ay deganeedo malaha maamadu ay lahayd boos yaro u dhow guriga ayeeyo daris la ah baan gatay kadibna waxaan ka dhistay guri yaro dhowr qola marka wuxuu yiri dhulka aan iibsaday wuu weynaa laakiin guriga aan ka dhistay baa yaraayo dhowr qol ahaa daarad weyn baa soo hadhay marka
guri markaan dhistay dee waxaa yidhi maasha allah alla wiilkii saciida waa fariid waa wiil hadda aan la aragon la maqalo isku filnaaday oo wiil fariido wuxuu yidhi anoo yaroo markaan 20 sano saas markaan u gaadhay bay ayeeday tiri gabadh baan kugu daray hadda waa lagu guurinay hadda waxaad noqotay fariid waad shaqaysataa waad isku filaatay guri baad dhisatay yaaba kaa fiicanba gabadh baa la igu daray gabadhii wuxuu yidhi aniga markaan isguursanay kadib waan isjeclaanay si fiican bay nolosha noogu qurux badnaatay gabadh bay iigu curatay haddana meelaha adugu 2 sano kadib gabadhii labaad bay dhashay anigoo wuxuu yidhi xaaladdu ii wanaagsantay ii qurux badan tahay oo ayeey iyo xaaskayga iyo reerkayga dhan ku filnaaday oo gurigayga iyo guriga ay daris yihiin oo dee markaan subaxii sii shaqo tagay markaan galabkii imaado mar walba ayeeyana aan sii marayo aan arkayo walaalkayga yaraan weli uu ayeey la degan yahay una guursanin ana aan aabba ahay dee 2 carruur oo 2 gabdhood ii joogaan oo xataa wuxuu yidhi gabadhan aan guursaday reerkooda reer iska dan yara bay ahaayeen gabadha reerkooda xataa aan wax siiyo oon biiloon raashin u soo qaad lacag sii ilmo iskuul ka bixiyo yacni xataa reerka wuxuu yidhi gabadha aan ka qaba ay igu dhaqan yihiin unba wuxuu yidhi hadda jinni duulayo yurub ka yimid madaxa igaga soo degayba web waa kana buufis baa igu dhacay waxaan idhi inaan tahriibaa jirta dadkii oo dhan wuxuu way ila taliyeen iska jooga waad fiican tahay guri aad leedahay baad degan tahay aabbaa tahay reer iyo xaas iyo carruur baa kuu jooga waad fiicanta balaayo way kaa badhee ayr iska joogo shaqaysamay ma jirto inaan tahriibaa i jirta tahriib dee buufis qof hadduu gala bes waayo shaqo iyo lacag iyo waxaas uma muuqanayso waxaan lacag haystay waxaan lacag urursan jiray wixii meel ii yaalay oo dhan baan isku darsaday waxaan urursan karay baan urursaday halkaasi waxaan u safray marka Itoobiya Suudaan aad saxaraha Liibiya siimar badda mar saan u sii socday wuxuu yiri waxaan tagay Yurub wadamadii ugu horeeyay la tagi jiray marka saas loo tahriibay Talyaaniga iyo meelahaas wuxuu waan ka tagay wadan boodan sidoo iigu sii dhiibiyeen u rafaadeen oo sii socday ugu dambeyntii Sweden baan tagay iska dhiibay halkaasaan dib u dejin ka helay markaan sidaas wadankii u tagay reerkii waan soo wacayaa laakiin wax lacag aan u soo diray markaa ma hayo gabadhii wuxuu yiri saas hadda Yurub markaan u galayba waan nabad tagay halo assalaamu calaykum waan nabad tagay ma iri lacag ma soo dirtay maxaan lacag soo diraa anigii baba rafaadsan lacag u baahanay wadankii aan u socday xataa aan u soo tahriibiyo hadafkaygii maba gaadhin be المهم waxaan la isiin jiray wax yar oo lacaga wali sharci waxa ma qaadanin luuqad ma baranin shaqo ma bilaabin ba wax yar oo lacaga la isiin jiray buu marka oo malaha caawimaad ah waxa yar caawimaadahan reerka waxaan uga soo diri jiray $100 ka badan ma hayo gabadhii wuxuu yiri hadee khalaas waxayba tiri lacag waad haysataa Yurub baa tagtay nooma soo diraysid kasbad noogu soo diri lahayd suuq bal Yurub marka la tago lacagtu leen sida barafka ma soo da'aysay soo inuu qofku wadanka la qabsado ma ugu yaraan soo inuu shaqo xataa bilaabo ma aha ma jirto lacag inaad soo dirtaa rabin dadkii baa tagay iyo dadka markay tagaan lacag bay soo diraan qof baa saas markuu tagay lacag soo diray ku kale oo aad ka dambeeyay baa lacag soo diray de wadan kale armuu tagay shaqo armuu haya dadku isku duruufo miya anigu mid kale wuxuu yiri hadafkaygu wadan inaan tago ahay inta ka sokayso dhan wuxuu wadan ka bax ku kale ka bax baan ku jiray iyo rafaad gabadhii wuxuu aan waan isfahmi weynay gabadhii waxaan ku dhahay wareerin aan wareer uma bahani anaba rafaadsanay oo wadan cusub oo luqadiisa garanayno cidna ka garanayn joogo hadda u baahan waxay garab qabto ay caawiyay waxa yar la isiinay $100 baan idinka soo diray guri aad leedihiin baad degantihiin aayar ma iska jooga gabadhay oo reerkaaga carruurtaada ma haysan waan shaqayn doonaa lacag wax walba anaa ku hayo ma ay tiri fur ana waxaan sir $100 maadaama guri ay leeyihiin ay degan yihiin wuu ku filan yahay hadii aad waxashado ilaahay irsaaqada ku soo kordhinay carruurtaada de waad iska biilan doontaa iska ba fur gabadhii wuxuu sidii baan ku kala tagnay ayadii baan ku marka carruurta ila ogo korkaas kala joog ayadii iyadu wax waa daris labadeeda guri way isku dhagan yihiin isku darbi weeyaan gabadhii wuxuu gurigeedii bay iska joogi jirtay carruurtii bay haysatay anigu luqadii wadankan bartay iskuul baan galay sharciyo ku meel gaaraan helay shaqaan bilaabay waan fiicnaaday biilkii waan u kordhiyay ayayna biil baan meel u saaray iyadiina biil baan meel u saaray muddo dhowr sano markay gabadhii joogto carruurtii yaraa gabdhihii ay waaweynaadeen waxay tiraan muddo waxaan rabaa walaalo inaan guursado haye waxaan rabaa iska guurso marka iska guurso laakiin ayaday carruurta iigu dhiibna kuma dhihi karo ayaday waa qof weyn waayeelo anaga inuu soo korsay ilmahayga ma sii korin karto carruurtiina ma aragtay qof meel kale inaad la aadido nin gurigiisa carruurteeda la geeyo ma rabe inta iska guursatid macallinkaaga keenso gurigan aad degan tahay ninkaagana keenso saas guriga ku dega saas miyaha caadi miyaa inaan gurigaaga nin keeno la dego carruurteedana iyo hay'adaha hooyadooda cid kaaga wanaagsan ma jirto ninkaagana ha kula soo dego guriga gabadhii wuxuu sidii bay ku guursatay gurigii bay soo degeen iyadii ninkeedii gabadhii wuxuu marka hooyo fiican oo wanaagsan oo carruurteeda jecel weeyaan ilaa ayay daris loo ahaa markasta way u dhowdahay way arkaysaa way ka warqabtaa marka wuxuu waxaan si marba hadii gabadh wanaagsan tahay carruurtiina si fiican kuugu haynayso adaa hooyay aabal aan rafaad ku soo korinta ilmaha ka balan bal lahayn adaa ka maqanay ama nin ha keensato ama ilaahu may bil kasta nin inta iska furto keensato guriga deganow adii carruurtaada leh baan ku iraan waxaad guursanaysan guurso
gabadhii waa la guursaday ninkii ilmo kale u dhashay anigii muddaan joogay waan fiicnaaday wuxuu yiri waxaan bartay sida cuntada loo kariyo anigu maadaama nin farsamo yaqaan ah markaygii hore Soomaaliya joogay aan waxba baranin waxbarasho hadda saacadan hadaan idhaahdo waan bilaabay wax luqad ka baxsan iskuma badaalinin ba ayr ma waxaan iska bartay sida cuntada loo kariyo chef baan noqday maqaayad baan ka helay muxuu ahaay shaqo halkaasaan wuxuu yiri ka shaqaystaa lacag fiican baa soo gasha caruurtaydii markasta waan la hadlaa hooyadood waan isla hadalnaa xiriir fiican baa naga dhaxay ayadii mar walba waan wacaa hooyaday oo wuxuu yiri waagii de aan yareynayna tuurtay siday u luntay wala waayayba baa ayr iska timidba oo xamar dib ugu soo noqotay marka waxay tiri hadda waan qaldamay inaan idin tuuriyo waxaas ma ahayn waan qaldamay oo saanaan yeelay Sacuudgaan tagay ninba i guursaday waan kala tagnay oo ii rafaadiyo ilmo yar bay wada taabir marka oo ninkii dhalay ay soo kala tageen waxaan ku yiri marka ay la soo deg ayaba kaligeed guri deganay dib ma lahayd hadda qaldantay anagu ilmahaagii baan ahay kaama daba qaldamayno wixii alaali waxaan ku tari karaan ku tari ay la soo deg adii ay waan idin beeli wuxuu hooyo ciyaal wadata ay la soo degtay hooyo ayeen bil baan meel u saaray gabadhii xaaskayga hore ahaan jirto marka nin kale uu qabo oo caruurtii ii haysa gabadhahaygina wuxuu waan biilaan noloshu way qurux badnaatay gabadh Soomaaliyeed oo Soomaaliya joogtaan Facebook iska baranay gabadhii markaan isbaranay wuxuu muddo sheekaysanay dhowr sano aan isjeclaanay baan gabadhii guur soo bandhigtay waxa tiri iga doona reerkayaga reerkoodii baan isbaranay isbarashadii koobaad aabaheed markaan saas isu baranaynay buu qabiilkee tahay horta waxaana reer hebel maana reer hebel gabadhayda siiya ismaba guursanaba isma geyno kulaha anaga qabiilkaas odayow maxaa dhacay hadii qabiil ma guursanaysa gabadho laan bas ay guursanaysa anigu waan fiicanahay waxaan nin wanaagsan waan shaqaystaa gabadha si fiican baan kaaga dhaqnay aabadan bur xaaraan bay ka tahay gabadhayda qabiilkaas iyo wax qabiilka ka socda ma is guursanaba warmaad ka joogtid oday gabadha waan is jecelnahay shaydaanka ma iska naartid maay wuxuu gabadha saahid baan u jeclaa iyaduna way jeclayd gabadhi waxaan ku maxaa xal walaal aabaha sasab gabadhi aabaheed malaha way la hadashay aabaheed wuxuu ku yiri waan ku dilay hadaba koorad baan kugu jijabin hadda sheekada ay la timaadeen qabiilkaas kuma guurinay meel fadhiiso gabadhi wuxuu adeerkeedu gobol degan magaalada iyagu marka ay joogaan ma ahane gobol kale adeerkeedu degan adeeradeedu gobol kale degan malaha gobolka iyagu ka soo jeedeen bay aadeen ka baxsatay reerkoodii adeeradeed bay u tagtay waxay tiri aabaha la iga qabto wiil wanaagsan oo fiican intaas oo sheekaysanayni oo nin fiican oo shaqaysto Yurub joogo i dhaqan kara uu ii diidan yahay adeeradii baa duqay wacay waa la canaantay waxay wada qaldan tahay hada gabadh waatan hadda way ka soo baxsatay anigeena la joogtay intayna meel kala aadin oo wada qaldan qaadin oo wax qaldan sameeynin gabadha hadda wiilka ku soo meheriyo wuxuu yiri waay odayga soo raali ka ahayn oo walaaladii hadalkoodii waxaas uu iska yeelaya oo walaaladii gabadha sidii ku soo dhiibay wuxuu gabadhi waa la ii meheriyay anoon imanin gabadhi xaflad yar bay dhigatay lacag baan u soo diray muddo dhowr bilood guriga adeeradeed joogtay kadib waxay tiri waan noqonayaa waxaan aadayaa magaaladeedii aan ka imid markaan ku noqdo waxaan ka doonayaa marka deena lacag ii soo dirto aroos inaan dhigto guri inaan diyaarsado kadibna aad timaado haye marka waxaan rabaa bay tiri inaan la heshiiyo reerkayaga aabahay iyo hooyaday inaan la heshiiyaan rabaa oo hadda meherkii ilaan uba dhacay xaaskaagi baa noqday Soomaha aan reerkayga la soo heshiiyay lacag baan u diray waxaan ku yiri bax reerkiina u tag la soo heshiiyay aabahay hooyada gabadhi gurigooda markay saa u timid aabaheedu uba dhaartayba waxaan irduqani madax adaga carab miya horta carab mu awisi kontanad ahaan jiray wuxuu soo istaagay gabadhayda hadda wuxuu waaba saan u kala dhaaran ani adi bari baaba diga tahayba qabrigayga inaada soo kor istaagin oo xataa jinaasadeyda imanin de oon ka dhaarto inaanan ku dhalinayn aan is aqoonin halka ku kala dhaarano ku dayrinayo ninka iska furiisid kala dooro ninkii maba imanin markuu yimaado arag haduu qof xun noqdo markaas iga furma jirto ama ninkaas iska fur ama bax ordo meesha harta adduunka ka aad ismana qanaani aad isma sheeganayno gabadhi wuxuu muddo markay fikiraysay iyadoo go'aan soo gaadhay bay soo wacday waxay tiri aniga sheekadu waxay taagan tahayba adiga iyo aabahay inaan midun idin go'o inaan reerkayga ka go'on adiga ku go'o inaan de adiga iska ka furan faraha ka qaado reerkayga heshiis la ahaado aabahay wuxuu yiri aniga adiga wasaan u kala dhaarnay waan kala dhaaranaynaaba dib isuma aqoonsanayna aabiga gabadhiisna ma ahaanina shaqo iskuma lihin kuma hadan cafiya xataa aan dhinta xataa kuma cafinayo ama ninkaas iska fur ama raacde ninka ugo ama reerkiina ugo marka aanu nin aanan aqoonin wuxuu yahay aan warhaynin uma go'ay reerkayga ka doortay ii furniya warqadayda soo siin naasheedaanka iska naar wuxuu adeeradeedu wax walba samee isma baynaan arkine xageed ku aragtay dad inta iskuursadeen isfuray iyagoon is arag xataa de ma jirto xal kale ma hayaan reerkayga ma kaaga soo go'a aabahay iyo dhalimaan kaaga go'ano aabahay waxaan isla adeerada u tag adeerada ku dacwee ninka ku guuriyo kadib aaba uu imow lacag si la heshii odayga lacag u balan qaada si kasta wuxuu yiri nag odayga wuxuu ku dhagay go'aankiisii
gabadhaas ama ninka ha u go'do ama ani oo ninka iska furto gabadhina waxay tii markii dambe uma go'i karayee nin aan warhayna walaalo iska kay furhayaan walaal khayr allah ku siiyo sidii baan wuxuu gabadhii iskaga furay hooyaday iyo ayeeday baa maqlay marka arrintii iyo gabadhii in la iga furay qabiil dartii way xanaaqeen waxay yiraahdeen gabadh hadda in hebel wad isku qabiil tihiin oo adeerka hebel uu dhalay adeerday yara isku jifa camal ah baaba lagu guurinayaa calaa forj calaa ficil gabadh qurux badan ba wuxuu markiiba la ii soo qabtay oo la igu daray oo la isiyo la ii meeriyay calaa forjo sayana ka hebel gabadh noogu diidi karaan wiilkayga ba qabiil gabadh loogu diiday maanaga ba reerkaas rabna anaka xataa ma rabno hadayna iyagana rabin wuxuu gabadhii ba la isiyo la ii meeriyay gabadhii markii la ii meeriyay kadib baan isbaranay wala gabadh lambarkeedii intii la isiiyay baan xilligii waxaan galnay buu isbarasho aniga gabadhii waan isbaranay muddo sheekaysanay waan heshiinay lacag baan u soo diray gurigay gogolatay guribay soo kireysatay way dhamaystiratay wax walba way diyaarsatay mar aan soo bixi rabo oo hadda aan rabo buu inaan tigidhka soo goosto tigidhka soo goosashadiisa un bas ay ii dhiman tahay wax walba laga wada hadlay oo gabadha reerkooda wixii hanti aan ugu talagalay lacag aan siiyo niyadii lacag u soo diray gurigii gogolato wax kasta diyaar yahay xaflad qabsatay bay tiri gabadhii waxaan ka rabaa lacag $10,000 ku gato dahab dahabka 10,000 hal mar lagu gadayaa muxuu yahay marka aan imaada bal horta dib male wixii dahab iyo waxaas gadaal baan kaaga gadi doonaa may haddaan ka rabaa $10,000 dahab hadda markii la ikaasiinayay la iska kaasiinayay ba hadda bilaa sabab inta saas lagu soo qaaday aan la ikaasiinayay xaal marintii raali gelinta la ikaasiinay maxaad oran weydin ninka aan waxaan ka rabaa $10,000 dahab walaale maxaad mid kale $10,000 dahab iigu xujeynaysaa hadda wax yar dhowr kun aan ku soo diray dahab ku gado hadhowna dhowr kun oo kale ku gado hadhowna tu kale ku gado ma jirtay tir aaminaad dhan ma jirtaba haddaadan hadda $10,000 ii soo direynin oo dahab ku gadanaynin wax ina dhaxmaraya ma jiro gabadhii waxay reerkoodii baan la hadlay dadkii ii siiyay wixii tol baan ahay lahaay calaa forji calaa ficil ii siinay baan la hadlay maxay tahay gabadhan $10,000 ee muqaddimka aan rabta dahab haday rabto waan u gadi doonaa mid kale maxay 10,000 iigu xujeen 10,000 hal mar ma bahaya anigu gabadh baan doortay kharash iyo lacag iyo hawl baa igaga baxday hadana iyada la isiyo kharash baa igaga baxay lacag baan u soo diray xaflad bay ku qabsatay sidoo kale guri dhan bay googlatay maxay kharashka iiga burburinaysa iyo lacagaha hadayna diyaar u ahayn guriyo reernimo mid kale maxay isku xujeynaya $10,000 iyo يعني 10,000 baa wuxuu anu madaxa iga xanuunay ba 10,000 bay soo istaagtay gabadhii hal xad $1 ka dhimay xataa ma qaadanay ani waa inuu 10,000 keena uu dahab ku gato wuxuu reerkoodii dadka kore talka ama in hooyadeedii aabaheedii walaaladeedii markaan la hadleen ku dhad gabadhan ma la hadashaan ma yaday gabadha haday rabto lacag waad haysaa dad dhan oo Yurub jooga tahay lacag si waxay iska taagan yihiin reerku lacag waad haysataa wuxuu miyaga akoonkayga waruhayo oo jeebkayga gabadha u gaday dahabka lacag si waxaan idin reerkan gabigooduba aan isqabanaynin qaladka isku wada raacaya gabadhooda hadaan hadda 10,000 intaan dahab ugu gado aan guursado laba bari kadib arooska armay ba tiraahdaa ifur hadhowna malacaga dahab ku gaday baa lagu soo celin wixii wuxuu radana isku qabiiliyo isku tal iyo wax marka la yahay odayaal iyo balaayada xararaha ka soo maran hada lacagtaada iskaga sabir faataxadan ku marayna baa hadhow lagu dhihi wuxuu waxaan suran meeshan armaad hadda iskaga joogtaaba hadda damiir qabtahay gabadhii waxaan idhi ma imaadaa walaale oo reer ma noqonaa anu 10,000 ma haye haddii kale wax yar aduu 2,000 500 3,000 ma ku soo diray dahab ma ku gadan maay 10,000 baan rabaa ma hayaan idhi 10,000 ani marka tigirkaygii wixina waan ka salay wuxuu safarkayga dhawaan baaji maba imanayaan idhi marka alaabtii gurigana deg adu kaliya hadda rabto ama gado saad rabtid yeel waxa la yiri marka hadan gabadha u iimaanayno $10,000 keenini oo gabadha warqadeedii iska soo dhiib ma soo dhiibayaan idhaani lacag iyo kharash dhan baa gabadhan igaga baxay lacagtii kharashkiyaad siisay wax guri baa lagu dhigay wax gabadha xaflad ku qabsatay wax ducuu ahaa wax maxay buu ahaa haye waxaan aan imaada marka gurigiina waa kan ugu gogolan yahay ta inaad timaado anigu kuma diidanin gabadhii baa diidan waxay tiri wiilku haduuna 10,000 dahab iigu gadaynin aniga waxaan idhi ma furay gabadhan sanad baan wixii reerkii aan hadan is haysanay sanad ku dhawaad oo la ilhaam gabadhii fur aan la ma furay aan imaado gabadhan waa rabaay wuxuu xaaladda aad markay barkama la istaagtaan arkay gabadhiina inayna waxba iiga suurtagalayn gabadhii kalena wuxuu sidii baan warqadeedii ku soo diray waa gabadhii labaad oo anoo Yurub jooga inta la ii meheriyay Afrika joogta anoo wali Yurub ka soo tagin aan furayo wuxuu aniga waxaan in ka aruux xagay kaaga dhaceen aabaha adoo yar buu dhintay xilida uu ku habaariyo in kaar xili ay kaaga dhacaan lama gaadhin ayida waligaa Allah baari baad u ahayd waad biisha hooyadaadii xataa ku tuurtay ayadoo yar markay soo noqotay adoo yar markay soo noqotay waad tuurtay saanaad tir waxba ma dhihin waxaan go'aansaday wax alaala waxaan ku tari karo inaan ku taro oo carruurta yar walaalahay aan la kuriyo carruurtaydii si fiican baan u dhaqdaa gabadhii wuxuu yiri carruurta ii dhashay si fiican baan wuxuu isugu wanaagsanahay
ودي حرير كان قد حي وراقي ولا تني ماذا نقدر حيس وادي أبطأ وان كلا تقنع على فكرة ما لكن وحير إن يرنا أحماننا ما راح تعلو waxaan isirin buu xagee in kaaruhu ka haystaan horta bal iska badaaba gabadhan banaha guursan tul isiyeeto aan jeclaado toona mar raba wuxuu halkaasaan gabadhan ba ku kansalo laba gabdhoodna ku furay kharash dhanna igaga burburay farahan ka qaaday wuxuu dhowr sanaan iska joogan iska sii shaqaysanay muddo markaan joogay umbaan haddana gabadh kale oo Soomaaliyeed wuxuu meel yar tuulo adegan tuulooyinka magaalada Xamar u dhow Muqdisho agagaarkeeda tuulooyinkaas ku yaala gabadh degan baan wuxuu Facebook iska baranay haddana gabadhi markaan isbarnay waan sheekaysanay tuuladaasaan deganahay reerka aabahood ugu dhintay marka gabadha iyo aabahood ugu dhintay walaalkeedu ka weyniyay iyo carruur ka yaryar iyo aduu waa reer badan waa reer wuxuu xogaa iska yaro masaakiin oo iska dan yaro iska rafaadsan oo iska duruufaysan reerkii wuxuu waaban u naxay waan u tacaadufay lacag baan u soo diri jiray biilo $200 reerkii waan isbarnay gabadha walaaladeed iyo hooyadeed dadka dhan wuxuu waan isbarnay dad wada fiican baan gabadha fiican bay ahayd si fiican baan u sheekaysanay markaan isbaranay aan guur ku heshiinay baan ku marka meeshan tuulada waan idin ka raray magaalada Muqdisho dega hadii magaalada Muqdisho marka degtaan aan lacagta 200 aan idin soo diray idin ku filan weyda xataa ana lacag idin ku soo daray gabadhu wuxuu marka ma inkastoo aanan arkin oo u iimaanin oo si caadi u arag oo macnaha aan marmar oo sawir iyo video call in la isku hadlo ay tahay sheekadu gabadh fiican bay u egtahay hooyadeed hooyo fiican oo hadal wanaagsan weeyaa reerka wuxuu si fiican baan subarno waa isdhex galnay reerkii way soo guureen Xamar bay soo degeen guri yar oo guryaha meelaha magaalada xaafadaha waxoogaa yar raqiiska ah jiingadaha abay degeen oo ay waxay yiraahdeen waxaan ku degnay guriga dhanba guri dhowr qolomaha isaga dhan wada jiingada $50 hadda noo soo dirto $200 ama $250 way nagu filan tahay way naga badbadan tahay waliba ducaan kuugu daraynaa haye wuxuu si fiican reerkii markaan soo wada fahanay Xamar reerkii soo degeen way wanaagsan yihiin gabadhu wuxuu gabadh qurux badan weeyaan waan ka helay waxaan bas markaan ku soo doonanayaa gabadha adeeradeedii reetulkeed baan ka doontay waa la isiiyay xaflad bay qabsatay meherkii wuu dhacay waxaan ku marka waan imanayaaye ma rabaan Xamar inaan imaadee waxaan rabaa inaan Nairobi ku aqal galno Nairobi tagtid Nairobi tag lacag baan ku soo dirayaa alaab iibso guri inoo diyaar guri dhan markaa diyaarisid markaas aan soo baxayaa aan kuugu imanaya Nairobi halkaas aan ku aqal galinaa waxay tir waayah cabaar markii la joogay bay tir ma radiyay maad baxdid waxay tir marka baasaboor Soomaali ma lihi waa inaan baasaboor Soomaali sameystaa hay lacag baan ku soo diray samayso haddana waxay tir kaligay ma safar karaan waxaan rabaa walaalkii iga weyn inuu i kaxeeyo isaguna baasaboor ma leh hay baasaboor goosta way goosteen tigid goosta fiisa wax walba waa in soo diray lacagti way goosteen Nairobi bay tageen waxay yiri gabadhi waxay soo raadisay marka guri gabadhi guri markay soo raadisay waxay soo heshay guri hal qol iyo fadhi iyo jiko iyo musqul wax yar adoo hal qol iyo fadhina lama dhihi karo qolal yar yar waxa jira waxyaalahan studio-ga la yiraahday ardayda iyo qofka iskaabulada kaliya iyo loogu talagalay yani waa meel yar oo saas u dhisan qolka fadhiga gooniya marka waa albaab leh inta kale way isku dhex furan tahay musqushan halkaas oo kale ku talaa iyaduna albaab gooniya ay leedahay iridkan markaad ka soo gashid meel baad soo dhex istaagaysaa qol ahaana dhinacaana fadhi baa ka yaala dhinacaana miiskii jikadii maqsaladii weelka lagu dhaqayay iyo weeyaan meel yar saas oo kale ay soo heshay walaalay mad guri yar oo yar fiican oo ugu yaraan 200 fadhi wax inoo soo raadsid may lacagta maxaa loo khasaarin laba qof bas aan way nagu filan yahay gurigani haye waayahay gurigu wuxuu yiri mid kale waa guri yar xaafado wuxuu ku yaala meelaha xaafadaha yar raqiiska waa 17,000 uu yiri 17,000 oo Kenya waa meeqa $17 miya talo ما $17 حتى ما يكسي يرتاح wax yar weeyaan $17 حتى ka yar guriyaha hagaagsan marka ay xaafadaha qoman ku yaala 30,000 yaa lagu dagaa qolka iyo fadhiga noocaas oo kala 30,000 25,000 30,000 40,000 isku mid ma ah kuwa goglan oo kale ka sii qaalisanba naaheed 17,000 lacag ma ah guri hagaagsan inoo soo raadi may maxaa lacagta loo khasaarini waxaas waa israaf maxaa ka qaldan Soomaaliland degno lama rabo anaka ma guri qurux badan oo dabaq weyn iyo guri yar maxay ku kala duwan yihiin meel alaab dhigan oo degnaa rabnaay saas miya hay lacag baan ku soo diray inoo soo iibi alaab chief iyo fadhi iyo weelal iyo wax kasta inoo soo iibi loo baahan yahay talaajad kulli shay inoo soo iibi xalbo way soo iibisay wax kasta wuxuu marka idii walaalkeed ba isla soo iibiyay gurigii bay gogleen way hagaajiyeen bas ana tigidkayga baan soo goostay waan soo baxay markaan soo baxay wuxuu airportka la igu yimid wiilkay gabadha ii yimaadeen isoo dhaweeyeen taxi bay igu soo qaadeen gurigii baan nimid wuxuu xilli galbay ahayd marka wiilkii gabadha la dhashay marka meelahan uu joogto soo socda qolkan yar ee la leeyahay waa fadhiga iyo jikada isku dhex yaala meelahaas uu joogay buu marka uu socday uu marna
TV waxba iska daawanay adoo meelahan uu joogay ana qolka gudahan iska galay waan qabaystay dhariyo waxba iska bedelay meeshan yarta ah ee la leeyahay qolkiya fadhiga waxa loogu talagalay mesela hal qof oo iskaablo oo kale ama hatta laba qof oo lamaanaha carruur waxba aan lahayn way degi karaan sababtoo ah musqushu waa hal qofka ku jira qolkaas jiifka waxa loogu talagalay inuu marna soo baxo meeshan yar fadhiisto TV-giisa iska daawado marna halkan yar uu cunto ku karsado marna de xamaamkan uu adeegsado meesha marka waa meel yar laba qof oo lamaanaha baa loogu talagalay ama hal qof oo iskaablo hal qof bay ku fiican tahay laba qof xataa ciriiri bay ku tahay wuxuu yiri marka alaabteedii wixii baan kala gurguranay gabadhii hadiyadahan u waday wixii baan siiyay qolkii baan cabaar ku jiray xilli maqribkii oo kala وبان كسو baxay qolkii oo isri meesha TV wax lagu daawanay aad tagtida banaanka soo baxay wiilka meesha fadhiyo baan arkay wuxuu waan xasaas wiilka markaan u arkay qolkaan ku noqday gabadhii baa waxaan ku iri walaalka ma halkan uu degan yahay markaas ay tiri halka hadda xaq uu deganaan lahaa halkan uu degan yahay hadda markii hore aduu kula deganaa waan fahmay dib male hadda xaafadiisi mu aado markaas ay tiri xaafadiisu aad halkan uu degan yahay walaalka misaga xaafad leh soo gurigiisa ma aha uu deganaa gurigiisa gurigan de gurigan soo walaalkay gurigiisa uu deganaa ma ahaay marka gurigiisa markaan maqnaaba heeyay hadda leen waa waxaan say digi baa yimid waxaan rabay buu inaan meeshan intaan fadhiisto fadhiga TV waxa iska yara daawado de xilligii la seexan lahaa intii ka gaarayso aniguna wuxuu waan yahay wiilka meesha fadhiya markaan arkay qolkii baan dib ugu noqday gabadhii waxay tiri may walaalkay meel uma socdo gurigu joogaya naamiyaad waanti wuxuu aniga waan yaab harban aamusan markaasaan ku iri masaanad okay ku tahay walaalka guri weyn oo la isla joogi karo la isla deganaan karo ma ahe maxaa guriga ma qolkan marka hore mid kale guri hagaagsan inoo kireeban ku waa diiday guri yar oo isaga dhanba ciriiri oo albaabka markaad ka soo gasho albaabka qolka jiifka xataa qofka taagan ee ka soo galay musqushi jikadii fadhigi waa hal meel wixii dhanba waxsaan u kooban weeyaan meeshana degtay meel hagaagsan deginaan meel hagaagsan ma rabin inaan ku dhaho diiday waxa lacagta maxaa loo khasaaray laba qof bas aan intana inagu filan laba qof bas aan hadda intan inaga way inagu filan tahay ninkan muxuu naga dhax qabanayaa marka waxay tiri waxaas waa ceeb miyaad waalantay walaalkay baan hadda dhaha guriga ka bax marka guri uma sii raadinin midda kale maxay ahaydee maxaaba guri loo kireen loo sii raadin ba walaalkayna qolkaas uu deganaanaya labadeennuna de qolkaas uu inagu filan yahay gurigu inaguma fille shaydaanka iskanaaro walaalka ordo meel uun ha aada de wiilasha Soomaalida magaalada ka buuxa ee iska buladahay isla dega guryaha hala dego oo lacagta hala bixiyo may guriganu inala joogay walaalkay maxaa lacag loo bixin gurigana lacag laga bixiyaay war ilaahay caadil sana wuxuu anigu waan yaab waxaan sir gabadhu inaan lacag la khasaarin iyo in lacag la tashiilo aqli ay ku garataba way leedahay walaalkeed gurigan saan u yar walaalkeed iyo seedigad inay isla deganaadaan inay ceeb tahay maxay u garan laadahay maxaa ka sii qofka wuxuu qolkii baan iskaga jiray cabaar gabadhii cashay samaysay cashay keentay walaalkeed wuxuu marka meeshan uu ka qaylqaylinayo intuu TV-ga waxaan lagu ciyaaro game-kii balaayooyinkaas intuu PlayStation ku xiriirsaday buu game ciyaaraya game waxa jira online lagu ciyaaro marka hore waxaan ku rid war waxaan ka celi war waxaan celidu ku haya meeshu ka qaynay mid kale wuxuu dadku dad yar ma haday gabadha dhowr 20 jira wiilkuna uu ka sii weyn yahay sida waxayna u dhaqmayaan dad yar oo hadda 15 sano 16 sano dad jira amal waxaan isla marka gabadha hadayba walaalkeed ordo de ninkii guriga lahaaba imanay odaygiiba imanay meelaha tago guriga ka gur ay dhihi weeday isagu mu isgarto labadoodu way isla qumayeen ba iyadu wuxuu cashadii wixii markaan cunay weelasha cashadii wixii jikada geysay meeshana live TikTok iska daawanaysaaba live kuma jirto iyadu way iska daawanaysaa maanta dadka community live ka soo bixinaya qofka live ku jira kolba qofka daaqadiisa soo qabsanaya waxaanay wuxuu iskaga dhex marqaansan tahay anigiiba wuxuu wax attention ima wasiinaysaba saan u yaabanaa eenu ama kaagsanaaban ku walaalay waxaan ku sheegaa safar baan ahay maanta dhama safar ku soo jiray aan seexano intaas oo saacadood baan diyaar soo saarnay live kan iyo waxaan intaad inaga daysid hayo way hay wuxuu aniga gabadha xilli aan seexanay wiilkii fadhiga ka dhax qaylinaya wali hore hebelow saande wara maxay war inta mar war inta celi warta ku haya wixii waa hal qolka hortiisa oo kale wiilkii jooga hadalkiisa qayladiisa wax kasta caadi baa loo maqlaa wuxuu aniga waan yaabay waan iska seexday xilli saqbarkii oo kala oo wuxuu ma labadii habeenimo ee talo mise saddexdii iyo wax un baan soo kacay oo sir masquul aad wiilkii wali sidii buu u qaylinaya oo TV-ga u daawanaya fadhigu jooga uu soo jeedaa tii gabadha ahaydna intay airport dhigaha gashatay bayba life ii daawanaysaa buu xilliga ani un baa hurdaba aniga wuxuu intaan yaaban gabadhiisaas u fiiriyo maba la hadlinba oo banaanka u soo baxay wiilkiina fiiri wiilkan wuxuu dhimo arkaba hadaad xataa madaxiisa korkiisa intaad saxan cunto asaarid ku kor cuntid miis ahaan maba ku arkayba gadaal maba soo fiirnay wuxuu TV-ga iyo game-kani waxaan ku dhex jiraa ku dhex maqayn oo ku mashquulsan yahay wuxuu masquul baan galay
waan soo noqday gabadhii baan saas u eegay khalaas wuxuu waan iska seexday marka subaxi waagu markuu bariyay ma subaxi malaha subaxi waagu markuu bariyay bay seexdeenba wuxuu waan soo kacay subaxi salaadii subaxan tukaday gabadhii waan kiciyay kii wiilka ah wuxuu meeluhu socday miyuu soo jeeday xilligaas uu seexanay ma salaadu u kacay ma sheegi karo waa la seexday kadib markaan tukaday wuxuu hurdadii baan iskaga noqday waan hurday wuxuu 12 duhurnimo markay tahay waa salaadii duhur wax yar ka dhiman tahay baan soo kacay haddaan soo kacay wuxuu yiri saas u soo fadhiisto soo baraarugay gabadhii halkan geeskooda kale ay jiiftaa waxaan isiri talo gabadhan xalad dhan soo jeedimaysaa ka seexatay mise intii mar hore kacday quraac iyo wax karsibay hadda seexatay waxaan isiri buu iska dhaafay waxba ka ciinina waan kacay albaabkan furfuray wixii bay ku kacday markay xilligii kacday baa waxaan ku yiri mar hore aad kacdo quraac iyo wax maad samaysay hadda baad kacaysaa maya hadda baan kacayaa hadda bay subax tahay bay kulaha wuxuu saacada saa u firi waa 12kii wax ma 12kii wax baa subax marka aniga wuxuu khalaas marka waan iska tukaday cabaar baan qolka iska dhex socday sariirta korkeedaan iskaga fadhiistay telefoon waxba isku mashquuliyay gabadhi wuxuu ii ag socotay marna masquul u galeysay marna uga soo baxays marna jikada uga shanqaraysay in suulahan ma cunto ku keento xilidee 3 galabnimo ah oo salaadii duhurka la tukaday oo laga baxay oo xilli damba 3 galabnimo bay wuxuu ii keentay cunto canjeero suqaar shaax wax bay keentay canjeeradu marka wuxuu yiri markaan saas u arkay aniga waan yaabay 3 galabnimo la marayaa canjeerada xilligan xagee u socotaa may haday xalay cajiin qasatayba oo hurda la tagtay oo 12kii soo toostay intii meelaha wareegisay labadii ka noqotay tir cuntaan karinaya asxan meeqada kariso haddana wuxuu waan gaajeystaan waxaan isir bar iska cuntadan waxba ka magalin quraac ahaan u niyooba 9kii subaxnimo inay tahay kaba soo qaad wuxuu yiri waxay tir halkan soo fadhiso meeshii miiskeera lagu cuntaynayo uu yaalay miiska cuntadii TV meeshu yaalay wiilkii 12kii xalay dhafray baa hurda waa in qolka jiifka marka lagu dhaxuntay soo degbaytir inta weelash dhulka soo dhigtay ka soo tagsaarta halkan soo fadhiso waan quraacanaynaa markaasaan maan quraacanaynaa mise waa fanayna quraac baabaan idhi cuntadan marka mise waa casriye maxay tahay macna qada xataa ma qadada xataa waa la dhaafay maya meeshan waa la iska hurdaayo xilligan oo kale baa la kacaayo waa la quraacanaynaa soo deg hadaan quraacanaynaa wuxuu yiri anoo yaaban baan soo degay waan iska soo fariistay wuxuu yiri waan cuntadii baan cunay cuntadii markaan cunay wuxuu yiri anigu cunto karin baan ka shaqeeyaa ninkan waa nin kuuga cunto buu kariyaaba meesha marka maqaayadan uu ka shaqeeyo xataa wuxuu dad Soomaaliya iskale canjeera lagu dubaa wax aan lagu sameeynin malaha wuxuu yiri canjeeradan iyo cuntadan gabadhu meesha ay wadwadi waxaan dhan maba ka helin ba cunto aan si aan macaaneyn loo kariyay weeyaan haddana ixtiraaman iyadaan ixtiraamayo cuntadan ma fiicnaysaanay tahay mardiina cuntadii baan iska cunay kadib wuxuu yiri cuntadii anagoo cunayno cuntadii marka intaan cunay aan sii dhameynay mise iyadu marxay intay iga hor faraxlatay ma garanaye bay wuxuu yiri saan telefonkii tirtiri khalaas telefonkii bay ku qaliftay gabadhii cuntadii baan cunay wuxuu yiri markaan arkay in gabadhani ka cayno oo cuntadii in cunto la cunayay bay ilowday weelashii baan guray jikadan gee meeshii iyadoo fadhidaan wuxuu yiri anigu qabaystay waan labistay waan iska baxay waxaan isir bal meelaha iska soo warwareeg sababta qolka jiifka uun sarita saa'ilan uma kor saarnaan karo qolkii kale ama TV la daawan lahaa ama fadhiga la iskaga fadhiisan lahaa wuxuu yiri waxa jiifa wiil kii xalay oo dhan dhafray baa jiifa xilligaas 3 galabnimo la leeyahay waa la quraacanaya canjeerada la cunayo ruuxan ugu hurdaysa gaajo ma qabato miyaa wuxuu salaad uma kacamiya ma sheegi karo wuu jiifa gabadhina meeshan ay iska maaxsan tahay telefoon wuxuu gabadhi ma saas u fiiri gabadhu waan isku cusubnahay waa habeenkii koobaadeen aqal galayna subaxnimadeedii naam maxaa ka qaldan walaal maxaa ka sii waxa ma dhihin weelkii baan guray jikadan geeyo cuntadii meesha ku dadaatay wixii dhar meesha aan ka guray jikadan weelkii waan labistay waan baxay meel aan aado wuxuu marka ma garanayo Nairobi waligay Allah ma arkin waa markii ugu horeysay tagay cidna kama garanayo cabaar baan meelaha iska taagnaa wuxuu yiri wadada guriga agtiisa aan iska soo socday cabaar baan saa meelaha u soo warwareegay meelaha soo socday anoo wuxuu meelaha iska warwareegayaan masaajid arkay marka xaafada u dhow masjidkii baan galay cabaar baan masjidkii iska yar joogay salaadii maqribka la adimay waan tukaday salaadii maqribkan soo tukaday wuxuu guriga baan ku soo noqday salaadii maqribka markaan intaan soo tukaday aan guriga ku soo noqday wuxuu ilaah baan ku dhaartay ninkii gabadha walaalkeeda wali wuu hurdaa salaadii maqribkan waa laga soo baxay horay baan u soo socday wuxuu qolka jiifkaan soo galay mise gabadhii bartii aan kaga tagay in yar bay wuxuu saa uga durugtay sararta bay kortay dhulkaan kaga tagay ma ogta meesha ku quraacanaynay saa intii u istaagtay bay sararta ku fadhiisatayba taanay telefonkii ku tahay ku dhax qalalsan tahay wiilkiina wuu hurdaa wuxuu cabaar baan qolkii dhex taagnaa waan soo baxay haddana kii ninka ay hurday baan cabaar fiirfiiriyay saanan u fiirfiiriyay madaxa igu xanuunay labadoodiba wuxuu waan iska soo baxay
wiil wuxuu yiri hoos markaan aan guriga banaankiisa socday dukaan meesha hoos kulo aan isalaano yani salaam calaykum aan isdhaxnay oo isla yar hadalnay baan u tagay wiilkii waan cabaar soo sheekaysta waan bartay magaciisa aan weydiiyay waxaan ku dhinayo maqaayad Soomaaliya aan rabaa meelaha maqaayad Soomaaliya oo cunto fiican samaysan ku taala wuxuu yiri niyo anaa ku soo tusay maqaayad fiican meelahan aad inoogu ma dhaw laakiin wax yar mooto marka la raacade meel yar loo gaari karo weeyana cuntadii wax walba waad ka heli doontaa ani wiilkii wuxuu mootan qaadanay waan baxnay maqaayadii baan tagay midda kale wuxuu simikaar ma wato wali simikaar ma soo furanin qofkii dhanayda xaaskayga ahayd ee magaalada igeen lahayd ee simikaar ii soo furi lahayd ee ilaha talaadali lahayd ee lacagta xataa wadanka wuxuu aan ma kala garanayo waa markii igu horreysay Kenya tagayo telefoon bay wuxuu ku dhex jirtaa waxay ogtahay malxal dhanna live TikTok bay daawanaysay galabta intii yaraday soo toostay wuxuu intay saddexdii galabnimo canjeeray keentay live iska daawanaysaa iyo wixii live afkii xalay ay daawanaysay wixii laga duubay iyo wixii hebel baa isdagaal waxaas TikTok ka socdeen dhamaad kala hayn bay wuxuu iskaga dhex mashquulsan tahay iyadoo qof TikTok leh ma aha oo TikTok soo gasho ama live soo gasho ama dadka live afka intay soo qabsadaan ka hadla ma aha 12 caawa live ka inta qof ay soo gashay iyo inta ka degta albeed tarihi live ka weeyaanba wuxuu waan soo casheeyay عشان iyadii wiilkiina u soo qaado waxaan isiri bal iyagiina waxa ma karsanay kulli ninkiina uu hurda gabadhina iyadoo telefoon sidii ugu qalafsan u tagtaa laga yaabay bal casho ugeey عشان soo qaaday wuxuu yiri cashadii markaan soo qaaday waa goormaday waa 9 fiidnimo guriga dib ugu soo noqday wiilkii wali wuu hurda gabadhiina sariirta kor fadhidaaba telefoon bay iska daawanaysaa waxaan ku weydiiyay qofkan walaalka ahi ma gaajoodo miya waxaan wiilka maad kicisid gaajo u dhimanayay cashadan idin soo iibiyay inta toosisid hooyo oo bal cashadan idin soo gaday hala waad ma hadsan tahay macasha noo soo qaaday wuxuu way telefoonka bay iska dhigtay way kacday weel iyo waxbay meelaha kaga shanqadhisay oo weel iyo waxbay dhaqday kii wiilka haabay kicisay oo cuntadii baa weelal lagu soo gurtay ayr baa la iska cunayba xaaskaygu inta qolka iridkiisa soo istaagtay aan ku jiray xataa aduma soo cashaysay ma dhihin iyo kaana nala cashay midna waa soo cashay laakiin xataa hada isku may kalifin ba inay weydiiso ayrbidi walaalkeed wuxuu iska casheen war xalay wixii dhacay ma ogtahay war wixii sidan kala ahaa ma ogtahay sheeka halkaas la iska galay iyo dood iyo buuq isaguna wuxuu yiri marka live iyo waxaasna war ma hay live nama daawaday game kaasi waxaas ku dhex jiray waxaad u malaysaa ilmo yaro 8 sano 10 sano 9 sano meelahaas jiraba game kani waxaan sidoo ugu dhaxwaalan yahay gabadhanna ma garanayo wuxuu markii ugu horeysay TikTok soo dejisatay ma markii ugu horeysay TikTok soo dejisatay bay qaybta live ka bilowday ma garanayo inta qof live soo gashay iyo qof walba xilligu ka baxay iyo xilligu soo galay iyo commentiga loo soo qoray iyo labadii qof ee isdagaashay waxa reer TikTok ba ka dhex shaqaynaysaaba wuxuu aniga waan yaabay wiilkii meel uma socdo wuxuu degan yahay meesha yar qol weeyaan la leeyahay fadhi weeyaan fadhina aan ahayn iridka qolka jiifka loo soo maraa gabadhii 12 caawa way soo jeedaysaa seexa hadaan dhaha xataa way cabaar iska yar joogta anu markaan sii seexanay dhagaha earphone gashanaysaa live bay galaysaa iyo daawanaysaa 12 caawa hadaan isrogo ama hadaan soo kaco waa tanaa telefoonka iftiinkiisa wajiga ka haya live bay daawanaysaa xilliga na walaali ma seexatid ma yaanu live kan waxaan iska daawaday subaxii hore uma toosayso waxaan aniga waan fahmi waayay sheekadii midda kale ma canaanan karo gabadhiina maxay xilli hore kac subaxii wax noo sameey maxaa ka qaldan live kan waxaan iska daa ma dhihi karo walaalkeed baan wax ka xishoonayaa walaalkiiba 24 saac hameenkii oo dhan gabadhii lama hadli karo intuu ii fadhiya qolka hortiisa maalinkii oo dhan TV ma daawan karo oo wuxuu yiri xataa meesha jikada hadaan isla shaaxay waxaad soo samaysatay live ma shidi karo meesha waa meel yar qol ahaan la leeyahay waa jikada fadhiyo live ka hadad shidid macal qofkii meesha hurday wixii dhan iftiinkii baa qabanaya aniga dhana wuxuu markaan caburay diiqad ciriiri aan dareemay baa ninkii u yeeray maalin xilli galab isagoo soo jeedaan ku warbal kaalay inaan wada hadalaan rabaay wuxuu yiri guriga yaran degan dabaqa meesha ugu korayso kor meesha dharka lagu soo wadwado halkaasaan tagnay waxaan ku yiri kaalay maanta inaan kula hadlaan rabaa ani walaasha yaani waana iskaga xishoonay waan isku cusubnahay sidan ay u dhaqmaysana si aan u bogay ma aha yaani masadana idin la qoma baan ku yiri hada labadiinaba macal adi ma sidana isku saxsantiino hada idin la qomande masana dad caadi ku tiina saxba idin ka siya ma yaa seed raali ah oo shaydaanka iska nar maxaa dhacay de walaashan waxaan mar telefoon bay indhaha ku taagaysaa 12 habeenkii way soo jeedaa 12 maalinkii way hurday waxba iima sameynayso anigu yaani iskaabulanimo iyo qaab darro iyo nolol aan iskaabulada markaan hawaaban dhaamiba sababtaa wuxuu cuntadeedii waxaygana waan sameysanayo aslan bakaygaba cuntaan ka shaqeeyaan sheef baaban ahayba cunto yar oo la karinayo hal qof uu cunayo waxba igama dhimayso hal daqiiqo ku karsadaa cuntadeyda gurigeygana waan hagaajistaa bilaa stress de gurigeyga markaan imaadana ayr baan iska seexan jiray
maxay tahay baan idhi noloshan rafaadkan ah qof dhan baan ahay gabadh baan guursaday reer inaan yeesho iyo qof i keer gareeyo oo ani ii soo jeedade oo ila hadlayo iyo og baan rabay gabadhan 24 saac marna way hurdaa marna dhafraysa idinma fahmin baan idhi maxaa midda kale adigu waad u jeedaa meeshii guri ma yaale hal qol baan isla deganahay aniga iyo adiga iyo walaasha in hal qol isla deganaano soo ceeb ma aha hadda wuxuu riteedi maxaan sameeyaa anigu ma shaqeeyo magaalada ma kala garanayo haddaan imid wax qaraabihi waxba magaalada kuma lihin meelaan aadana ma garanayo waxaan sameeyo ma garanayo maxaan sameeyay waxaan dhib iska badeganowba dhib male iska badeganow inaad nala deganaataa wax mushkilada ma maleba waxaad samaysaa marka gabadhan walaasha la hadal oo saan iska badashadee anu gabadh xaas ii noqotaan u baahanahay gabadhan TikTok 9 kaba dhex taagan uma baahani waxa ay kariso oo maxay ahayd xilli hore subaxii ha toosto xilli caadi ah hadda 10 9 ha toosto quraac ha samayso xilli qof bini aadan caadi ah ayaa ha noqoto dadka bini aadan kale maalinkiina shaqay qabsadaan gurigoodii hawl ka qabsadaan banaanka shaqo ka soo qabsadaan way sheekaystaan way dalxiisaan way soo wareegaan hameenkiina way seexdaan maxay tahay noloshan wuxuu kala gadiska 12 maalinkiina waa la hurday hameenkiina telefoon TV ba indhaha lagu haynaa dad waxa ma ku soo dhaxdhacay buur waalan anigii wuxuu marka waxaan isleeyahay bal hadegdegin Saciidow isqa qabo isxakamee soo gabadh meedaan kala tagin idinkoon is arag soo tu labaad meedaan kala tagin soo tu hore meedaan kala tagin carruur kuma haysa gabdhahayga hooyadood wuxuu waxaan isleeyahay bal u kaadi bal sug ma adaa waalan misaadan baa laga heesiyaa maqli jir waxaan isleeyahay ma adaa habaar qaba mise dumarkaba intii habaarka qabteen buu Ilaahay kugu soo hagaajinaya maxay tahay inkaartani bal sug bal sheedaanka iska naar baan isleeyahay walaalkeed baa gabadhii u yimid anu iska baxay buu marka wiilkii Soomaaliga ahaan hoos isku baranayay baan wuxuu si fiican isu baranay waxaan isu raacnaa masjidka waxaan isu raacnaa maqaayadaha wiilku wuxuu simkaar buu ii soo furay lacag buu ii soo sarifay lacagtii iyo wixii oo dhan wuxuu waan kala fahmay wiilkaasaan marka wuxuu meelaha maqaayadaha meelaha isu raacnaa wixii xilligii aan wiilka hadalka ku yiri waan iska baxay waxaan rabaa labadooda inay sii wada hadlaan intaan maqnahay oo gabadheeda isla yaabtay iyo walaalkii isla yaabay aan u soo noqdo walaalkii wuxuu gamekiisa iska ciyaarayo qolkii fadhiga jooga oo TV-giisa iska daawanaya iyo gabadhii xanaaqsan oo gafuurka taagayso anada walaalkii igu dacweyn Soomaa maxaad damacsan tahay maxaad rabtaa walaalkii waad ogtahay inuu ani dartii meeshan u yimid walaalkii ma shaqo hayaa walaalkii si aad u dhihi kartaa guriga ka tagnaa walaalkii iska joogaba guri waxba uu ka tagin anu wuxuu fasax yar waxaan soo qaatay marka 2 bilooda waxaan joogayba waa wax yar muddo yar kooban 2 bilood ah walaalkaana insha Allah intuu shaqo helay meesha iska joogo shaqo markuu helana magaalada dhinaca ka dago mid kale shaqaaban u soo raadin ba insha Allah ana shaqo u soo raadinayo hadan dad isbaran ana meesha shaqo uga soo raadinayay adigu isbedelo gabadh quman oo marwaa iska dhig sida marwooyinku uma dhaqmaysid masaanad iskula saxsantood ku quman tahay maxaa kaasiya qof hagaagsan oo quman ma noqotid anu wuxuu markaan wiilkan aan wuxuu sheegay waxaan isla gabadha la hadlo gabadha isbedesha xanaaq iyo gafurtaag bay ka bilowday ba sheekadii ha xanaaqsanaato gafuurka hataagto wuxuu anigu go'aan baan gaaray markaan arkay noloshan baan sirshib iska dhaxdo waxba khalaas waan ku furayaa iyo reerkeenu uu dumayay wiilkan gurigeyga ka tagay iyo gabadh fiican ma tiidi isma bedelay sidii waxaas midna hadhihin wuxuu wiilkii Soomaaliga ahaan isbaranaynay dabaqay gurigan aan deganahay baan wuxuu wiilka isla deganahay meeshan hoos ana masjidka ka intaan dhulka isku baranay wuxuu yiri subaxii jimicsi baan aadayo waan orod baan aadaa subaxii wiilkii baan ku yiri markaan isa soo wacnay subax walba waan ku raacay wuxuu subaxii salaad subax markaan saas u tukado ilaa ninkan ah Saciid miyaraantiisa 10 sano isagoo jiro shaqo soo bilaabay subax la seexanay iyo seexad maalin la seexanay waxa soo xidhan uma baranin ba weligayba qof waxaaban ahayba subaxii kalaha oo subaxii shaqeeyo oo ruux shaqada habeenkiina seex maalinkiina shaqaysta maalin la seexanay iyo salaada subax marka la tukado hurdo lagu noqonay waxa soo xidhan dabeecadeedaba ma fahmayo dadkan habeenkii oo dhan soo jeeday maalintii oo dhan hurdaysada wax daroogaysan wiilkii baan wuxuu israacnaa subaxii orod baan aadnaa hadda meeshan salaada subax ku tukana socodkan bilowna iyo orodka subaxii 9 markay tahay baan soo noqdaa wuxuu lacag baan hore jeebka ugu sii qaataa marka subaxii intaanan orodka aadin dukaanka hoos guri walba hoostiisa waxa ku yaala meel adeeg lagu gado iyo meel hilib lagu gado hilibkaas fresh ka wuxuu xataa hilibkan fresher ku jiray waxa ma rabaani lagu qalay saaka la qalay ama xalay meesha lagu iibinayaan ka soo gataa beer subaxna waxaan ka soo gataa hilib waxaan samaystaa suqaar hadaan rabo waxaan ka samaystaa jabaati hadaan rabo rooti baan soo gataa hadaan rabo canjeeraan dubta anu wuxuu chef baabana cunta ay dhibi bahal yar oo cunto oo khatar intaan samaystay macal shaax karsado baan ruuxu halkaas ku quraacda
أما سيدي مية يسوق بحشون واي وحن قو أنصدق محمد روح حشون بقى الباب كترتيب وفر مسقوشة قلين كذا ويلك قللبها كقصين لايت كهكوشيدين يعني معلمي روح عن إسلها بوديويلك وتجدوناي مالها جوري وحبال لور رادينية يعني إني لبضن قفسان إسكولكم مين إجماع بدر أحسنين بقى وتجدونا ويلك هذا شقة لور رادينية مالها وحبال لور رادينية مالها عن إسلها بودي ونكح حشوني markaan arkay bur dadkan inay xishoonin xataa markaan la hadlay labadoodii wiilkiina oo sidiisii iska yahay gabadhina ay baxanaaqday way gafuurka taagayso subaxii ay markaan soo noqdaan soo iibsada quraacdaydan karsadaa shaaxaygan karsadaa dhag waan quraacdaa waan qabiistaa dharkan iska bedela waan baxaa magaalada sidaan ugu maqnahay baan fiidkii imaadaa fiidkii markaan soo hooyanayo baan casho u soo qaadaa waxaaba macquul u yiri hadda xalay cashadan siiyay dadkan inay ugu xigto cashada caawa aan u keeni doono 12 maantii fiidkii oo dhan waa la hurdayba sagaalka fiidnimo imow ama 10ka imow ama soo daaho 11ka imow midna telefoon buu ku qalafsan yahay midna TV buu ku qalafsan yahay xiligaas cuntadaas aan u keenay wuxuu ay cunayaanba markii dambe wuxuu waxay aragtay marka gabadhii inaana laba hadlaynin ba cunto ii samee dhar ii dhaq waxaan ii samee waxaan ii qabo inaana wadahayno danahayga qabsan sida nin iska bla camal aan u dhaqmayo laana waan arkaa bir meesha wax reernimo iyo wax khayr oo ka soo socda inuu jirin waxaan isleeyahay labada bilood fasax ku joogtid ahir iska joog halkan iska wada deganaada marka tagaysiin dadkana xamar ha aadaan ama Nairobi ha joogaan iyaga u taala gabadha waan kala tagaynaa aad dhahdid marka tagaysa ama marka tagto unaad soo furtid saan wuxuu sidii u ahaa labadeedii bilood ee fasax way dhamaatay xataa waxaan la hadlay bur hooyadeed gabadha hooyadeed iyo anigu wuxuu biil baan u diraa lacag $200 aan u diraa si fiican ba isu naqana waan iswacnaa waan isku fiicanahay waa maama fiican waa maama iska miskiin ah wiilkii gabadhii ana la hadlayay wuxuu wiilku shaqana ma hayee meesha cidna kuma lihine qaraabana kuma lihine nin wuxuu yiri marka waxa jira wax ay qaraabihiin magaalada jooga afti ay dhahaano malaha hooyadad ay isku qabiilihiin oo qaraabo isu dhow ayna ahayn wiilka shaqo iyo waxba loo raadinayay insha Allah shaqo heliyaa un bay idhii buri baamaduna markaan arkay xataa hooyada hadan la hadlo waxba faa'iido inay reerkan soo wada wuxuu danahaygan qabsaday badarkayga ana dhaqdaa feeran geystaa cuntadaydan karsadaa qada hadaan rabo waan samaystaa hadaan rabana maqaayadahasan ka qadaya waan soo casheeyaa iyaga cashaan u keenaa subaxii wuxuu beer yaro fresh baan soo gataa oo quraacda oo samaystaa wax alaale wixii cunto aan u baahdo marka wuxuu anaaba samaysan karo ku cunto macaan ba gabadhan waxay karinayso wuxuu yiri waa cunto khatara marmarka qaar wuxuu qadaan sameeyaa qada fiican oo badan oo labadooda ku filan iyo macal ani galabkii markay soo kacaan bi qadeen ala qadadaadu fiican ala cuntadaadu waa cunto fiican wuxuu yiri seedigay ayr buba afmugi wuxuu iska leeyahay seedi wallahi bilaa sheef farta ka xiran baad maalin kasta qadam adinoo karis habeenkii xataa cashada adu inoo kari buba iska leeyahay wuxuu in yarna ma xishoonaya xataa waan inoo karnaya waa diyaar baan dhahay ana inoo sameeynaya labadii bilood way dhamaatay wuxuu yiri waan baxay waan safray waan tagay in yar markaan maqnaayay meelaha adigu week aan joogay nastay baan gabadhii soo waxaan ku yiri may maqlaysaa adiga walaalka alaabta guriga taaltaaliyo waxaan intaad gadataan lacagtina nool ka dhigataan guriga hooyada taga markaad guriga hooyada tagtid soo wac markaasaan wada hadlaynaa ilaa hadda wuxuu gabadha anaa mas'uulka oo soo guursaday Nairobi anaa keenay hadan iyadoo Nairobi joogto furo waxaan isla reerahooda armay ku qabsanaa lagu dhaantad gabadhii naga kaxaysay oo Kenya naga geysay markaasay gabadhii fahamtay buu marka in meesha lagu kala guur rabo waxay tiri sabab maxaa dhacay waxaan doonayaa anigu inaan mas'uuliyadda iska wareejiyo soo aan reerkiina kaama soo kaxaynin adii walaalkaaba socda israaca walaalkii wuxuu sidii isku meesha u dhex degan ma ka soo tagay guriga hooyadii marka tagtaan soo waca adeeradeed iyo dadkii iskaaya siiyay iyo dad hooyadeed iyo abtiyaasheed iyo waxbay wacday bur Soomaaliya joogo waa la soo wacayo waxa la dhigay maxaa dhacay shaydaanka iska naar gabadha maxaa u furay ma gabadha maxaa tiri waan ku furayaa ma horta bal ha timaadaan bur Soomaaliya ku soo noqoto maya Soomaaliya kuma soo noqonaysa wixii jira noo sheeg waxa la dhigay gabadha inaan furaan rabaa ani gabadhan iyo reerkoodan iyo walaalkeed iyo waxaan dhan anigu waa fahmi waayay hatta hooyadeed baan la hadlay oo hooyadooda aan xataa fahmi waayayba gabadhii waxaan ku yiri guri deg qolbay degtay si kasta intaan la hadlay baan markaan soo socday wuxuu aan ka waayay guri hagaagsan degnag weydiido xataa lacagta maxaa loo khasaarini laba qof bisaanahay qolku inagu filan yahay qolkiina wuxuu walaalkeedu iyada ka weyn baaba ii dhex taagan maxaa guriga marka ma rabaan dhibudaan gabadhiine ha soo noqoto gabadhii wuxuu waa tanaade calaacal telefoonka ma iiga baxdaaba haddaan isbedelayaa walaalkayna hadduu tagayaa shaydaanka iska naar furiin ma rabo ilaahay ka baq qofku jecel lama furo nafsi ha iga guranin wuxuu yiri aniga waaba naxay waxaan is imikeeba intaas hore iga soo burbureene haddana reer kale inuu iga burburo anaaban rabine hadda waayahay walaali markaan kula joogo qof reer rababa maada u ekayne naxariista xagee kaaga soo degtay macnaha markaan ka soo tagay
ساد isbedelayn ku aamin inaad isbedelaysid soo adigii markaan wada joognay u dhaqmayay gabadh TikTok uu qabo gabadh la qabo maruu ninkeedii uu joogo ninkeedii uu safar ugu yimid bimaada oo ay kaynbe soonigi habeenkii seexa ka kari waayo subaxii toos soonigi kugu kari waayo ilaahay baan ku dhaartay haddaan 5 subaxnimo kici waayo 5 haddaan kici waayaan ku dhahay markaa timaado 5 anoo saas u taagan hadaad arki weydo salaada subax haddaan ku kicin waayo lugaha haddaan ku dhaqi waayo walaalkay Soomaha haduu tagi ama magaaladu dhinac ka gali ama xamar buu aadi ilaahay baan kugu dhaariyahay ifurin bas wuxuu waxaan isir waxba iska furine gabadha haday isbedelayso ilaa qof weyn iska yeeleysa iska yeelyaal baa haday ugu tala gashay reerkeeda si fiican bay u dhaqan kartaa haye waayahay baan ribir walaalka haduu rabo haba kula deganaada wax dhib aan iguma hayo taa qof caadi ah noqo si fiican u dhaqano si fiican u joog waayahay markaan kugu imaado maya bas waxay tir TikTok waa dhaleetay TikTok dhan waxay tir application-ka TikTok la dhahaba adoo arkay u jeeda fiiri wakaas waan dhaleeday social media dambe igu arkay wuxuu dadka Facebook iyo waxaas aad u isticmaala ma inkastoo Facebook isticmaashan iska baranay wuxuu yiri ma garanay TikTok wax ku dhex sixray waxaad u malaysaa inay ku waalatay malaha markay saas u baranaysay TikTok ninkuna la soo kulmay ama TikTok live ba dhamaanay qof baa intuu live soo galo iskaga jira 12 saacadood haduu doonin 12 ka saacadood qofkaasi wuxuu indhaha ugu haynaysaa خلاص waxay jirtay TikTok-na waan dhaleedayaa waa igu balan Snapchat kaliya isticmaalaya iyo WhatsApp kaas aan adiga kala hadlayo Snapchat kaas wuxuu subax walba video la ii soo diray saacada soo ma jeedid xilligaasaan kacay waan tukaday wardigaasaan akhristay waan baxay waan soo lugeeyay haddaan guriga soo galayaa hadda quraac baan samaystay wuxuu quraac baa la ii soo duubay quraacdana soo sameeyay maxaad ani iigu sameyn weyday markaan kula joogay marka waan toobad keenay soo uma jeedid waa balan hadda sidaasaan u hagaagsanaanaya TikTok dambana waa igu balan hadda waxa igu balan dib inaad iigu arkeen reerkeena hay naga dumin furiin dambe iyo waxaas yaana kugu maqlin wuxuu waxaan sirtaa iska haysa xaaskaaga hadii ku hagaagayso waa inay qurux badneed bulgaabada qurux badan bay ahayd waayahay sidii waxay Snapchat-ka iigu soo duubtaba waxay tir marka walaalkeena magaalada dhinaca ka galo wax yar oo lacag siinayna wiilal guri hala Kristo wuxuu wiilkii aan isnaqaanay baan mar hore ku yiri intuu wiilkan nala joogay wiilka shaqo iigu soo raadi muddo la joogay wiilka shaqo loo soo helayba shaqadiisii buu tagay wiilal buu guri la degay gabadhii uu ka dhax baxay gabadhii marka hadda halkan aan lugaynayaa iyo quraacdan aan karsaday iyo xilligan aan toosay iyo dhikrigaas aan akhristay iyo quraan baan akhristay haddana waay kana duhur baan tukanay casr baan tukanay saas qof hagaagsan oo caadi noqotay marka sidii aan rabay maalinkii maray gurigeeda shaqo ka qabsato maray subaxii soo ruwayso meelaha soo wareegto maray quraan akhrisato habeenkiina seexanayso 19 meelaha khalaas seexanayso waxaan ku yiri sida bini aadamka u dhaqan subaxiina toos oo shaqo qabso tuko soo jeeday oo hawl gurigaaga ka qabso maalinkii oo dhan duhurkii hada rabto iska yar seexo habeenkiina seexo xagee dadka TikTok live baba galay sidee dadkan danay u soo galayaan lacag bay ka sameeyeen adu lacag kama sameeynis oo dadkan lacagta dadkii u direeyay giftida direeyay matid maxaad ka soo galay marka inaad daawato ma garanay balwad xun buu noqday bay tir qof haduu wax balwad u noqdo waaba dhibaato balwad xun buu noqday waan joojiyay halkaas aan ku joojiyay haye wuxuu yiri hada gabadhi waaba tan noqotayba gabadh fiican oo fariida oo amarka say u qaadanayso hada dukaanka haday ka soo gadanayso hal xabo shaamba waan baxaya hada dukaankan u socdo halkaas aan ka soo noqonaya daqiiqad taaga ila socodsiinaysa buu nolosheeda 7 bilood bas markaan maqnaa yaan tigid kala soo jartay waxaan idhaahdaa waaba isbedeshay raaliyaha weyn baad noqotay jannadii Allah ku geeyay waan imanaya waayahay tigidkii markaan wuxuu soo goostay oo bixitaankayga 4 bari uu ka dhimay 4 bari bas tigidku ii go'an yahay xilligan bixi lahaan 4 bari baa ka dhiman hay soo wackiisii digay ahaa seediyo nimankii dukaankii aan u shaqeynay niman buuxur u shaqeynay dukaan u gaday waan isdagaalnay oo shaqadii way iga soo eriyeen markaasaan yiri yaa ilaahi maxaa isku soo beegay wiilkan xilliga shaqada laga soo eriyay iyo wuxuu soo wadaan ogaay wuxuu rabaa inuu guriga ugu soo noqonayaa xilligan anigu soo safray aan u soo socday xaaska iyo xilliga wiilka shaqada laga soo eriyay maxaa isku soo beegay talo maxaa isku soo beegay wuxuu waxaan isku day isagii wiilashii inaan kala dhaxdhaxaadiyo wiilashii waxay dhaheen wiilkan waxba qaadaa qofka aduuna aamin ahayn wax qaadayna de anagu kuma jirna badaas adu mas'uuliyadiisa ma qaadaysa wax dambe haduu naga qaado ma bixinaysa ma bixinayaan eerweer ma bixinayo maana dhalay ninkan ila iga weyn maxaa mas'uuliyadiisa ay kor saaray mayaan eerweer ma bixinayo hay waxaan ku yiri wurdeysay dib ma lahayn shaqo kale ku soo raadinay wixii kale kugu taray kale kugu taray wiilasha aad la degan tahay la degano hay yiri marka wiilashadaas iska la deganaanaya bal shaqana insha Allah meelahan ka raadsanaya Saciid wuxuu yiri marka anigu safarkaygi baan iska soo ahaa 4 bari kadib waan soo baxay waan imid gabadhii airportka igaga hortimiday
ayadoo faraxsan oo shaxshax ah oo quruxda ka muuqatay shacniga aad yaabto dhafarkii iyo balaayadii iska daysay oo dee saas qof dhaqan u eg wuxuu yiri markaasaan aqal galnayba marka wixii hore aroos iyo aqal gal lama dhihi karaba dee qof gabigeedu waa maqan aniga wuxuu yiri waan khajilsanahay waan yaxyaxsanahay ma gabadhii lama hadli karo walaalkii baan ka xishoonaya walaalkii gabadhii isma dhaamaan aniga wuxuu yiri ciilde waxaan dareemayay buu yani weegagii ugu horeeyay cabid markii dambana gabigooda faraha aan iskaga qaado wuxuu lama hadli jiray xataa assalaamu calaykum xataa ma dhihi jirin guriga maan dhinac kaga noolaa yar sida dad guri isla degan oo roommate camal aan u dhaqmayniba wuxuu dhahay markii dambe gabadhii gabadh fiican bay noqotay oo fiican oo wax walba qabanaysa oo subaxii kacaysa oo ii samaynaysa shaax oo quraac ii samaynaysa oo ka cusub iiba odagaaga beer u shiil dhagdhag bahal qado oo khatar wuxuu 12 duhurnimo hadda marka la aadimayo qadada wuxuu yiri saas iyadoo karinaysa ama karisay ban masaajidka aan ka soo noqonay cuntada wuxuu miiskayba saaran tahay oo dhag waan quraacnaa waan qadeynaa meelahaas aan ku soo dalxiisnaa hoteeladan geeyaa muddo markuu wuxuu xaaladii noo fiicnaa bil saas ku noolnahay oon isleeyahay buu aleelaha go'aan saxan baad qaadatay markii inaad degdegto ma ahayn bal markii gabadhan hadaad furi lahayd ka waran wuxuu TikTok iyo waxba kuma arkaan telefonkeeda inuu ku jiro in kala war ma hayo laakiin live-na ma daawato live-na kuma arko mana dhafarto gabadha isku mar baa seexanaa isku mar baa soo toosnaa qof caadi oo bini aadan sax u dhaqmay noqotay wayba toobad keentayba wuxuu yiri aniga waxaan gabadha shoo wax aan ku furaya ku dhahan bayba ayd basoo taxagaagtay fiicnaatay fariida noqotay ma sha Allah wuxuu yiri aan ku faraxsanahay baan xilli wuxuu yiri galaba baxay fiidkii markaan soo noqday waaba kana walaalkeedo qolka fadhiga fadhiya oo halkaas oo kalena wuxuu yiri iridka meesha laga soo galo agtiisa oo kalena albaabka saas marka loo soo furo meesha ku laamay mesela ay taala boorso weyn oo soo guuriba oo guriga soo dhex tagay haye waray horseediyo seeta ma fiicanta xaaladda ka hor caafimaad khalaas waan salaam wuxuu qolkan iska galay iyadii baa la hadlay inuu yiri khayr maxaa jira walaalka maxaa guriga ka soo doonay walaalkii waxa jira ma shaqeeyo bil dhan iyo wax la jiro shaqo la'aan aha wiilashii uu la deganaana wuxuu ku yiri waan baxayaa anigu Soomaaliyan aadaya bishiina way dhamaatay kadibna dii haduuna lacag la bixinaynin lama sii deganaan karo marka uu baxayaa tigidhi waxba loo soo jaraya xamar buu u socdaayo dhowrka bari uu baxayaa tigidhka loo soo jarayo in la deganaanaya hayaan dhibano ka dhib malay dhowr bari baa la joogay week 10 bari wiilkii maba tagayaba naahada soodiga la walaalkii waxa loo soo jaray tigidhka uu baxayaa ما هو بحيها walaalkay sugdi adiga maxaa ka qaldan walaalkay ma dib uu kugu haya maxaa kaasiya walaalkay culays kugu haya maxay tahay walaalkay maxaad u diidantahay horta guriga inuu joogo waa ma ka ashikay qof xun baa tahay maxay baa tahay oo gaadhi wuxuu way xanaaqday furkay ugu tortinaa shaydaanka iska naarnaa joog ha xanaaqina soodigi wanaagaagii kuwad ha joogo walaalka haduu rabo walaalay ha isbedelne sidaadii hore ha fiicno wuxuu way xanaaqday laba bari bay xanaaqsaneed gafuurka taagayso ila hadlin nin wuxuu yiri oday ay abti dhihi jireen qaraabihiin baa raadiyay lambarkiisii odayga baan meel ku balansaday waan u tagay waxaan ir gabadhaan ma u jeedaa ma fahmayaan iyo wiilkaan iyo gabadhaan waan fahmi lahayn wiilkaan haduu tagayana ha tago ana lacag siinayo tigidhka ka bixinayo Soomaaliya ha aado hadii kalena waa inuu waday maxay ahayd magaaladiisa dhinac ka galaaday waxa guri xad haduu rabo kirada dadku la deganaa ha ku noqdo ana la bixinay laakiin qolkan yar ceeriga ah iskulama noolaan karaan seedigeeda waxa uma dul qaadan karaanay markii hore doqonnimo ugu dul qaadanay hadda maba u dul qaadan karaba gabadha haday reer rabto iyo wanaag wiilkan meel ha iga saarto ha iga dhaxbixis ilmo yar dhashay ma waa walaalkeedu ka weyn wuxuu yiri hay odayga ana la hadlay ceeb alle idin badweyne ceebeen kuwan ma xishoonayaan bal idin aragtay maxaa ka qaldan waxaan maxaa ka sii wuxuu yiri maalinimadii aan saas lahaa odayga tigidh buu soo gooyay wiilkii intuu tigidhka u soo jiro subaxii dambe ku yiri soo bax hadda tagaysid oo runka ta xamar soo ma socotay ana tigidhkaaga bixinay uu soo jaray tigidhkii خلاص soo yiri safar wiilkii uu safar uu baxay gabadhii wuxuu walaalkeed markuu baxay de xanaaq nafta shalay mooyeen daraad bay ka baxdayba walaalkay baad arki laadahay walaalkay ma arki kartid reerkayga hadaadan rabin maxaan kugu falayaa bitraani sideen ku oranay hadaad reerkayga rabin naasoniga reerkiina rabay hooyada biilka aan siinayo $200 bil walba u soo diray ilaani imay dhalin hooyaday waajib iyo xaq xataa iguma laha inaan biilay qaraabanimo iyo qaraabo xiriirsanimo iyo wanaag iyo sadohnimo u baan u biilayaa hadaan reerkiina arki karin maxaan hooyada u biilayaa miyaad dhimantahay adigu walaalkay maxaad u diidantay markuu inuu joogo ma joogayaan ku yiri walaalka sidoo u joogi walaalka guri magaalada ka kireysto shaqaha raadsado magaalada dhinaca ka galo haduu rabo sidoo rabo ha yeelada khamri ku dhaxay magaalada haduu doono laakiin gurigeyga ma joogayo uu ku soo salaami karaa uu soo booqan karaa uu ku iman karaa waa inuu tago maxaa qolkan yar ee 40 mitir ani seedigaysan isla deganaanayna markii hore wuxuu yiri aniga wax walba ku yeelay ma ogtahay
walaalkay dambana ima badhigi karto mawduuca walaalka iga xir baan ku yiri buuraani qof hadduu qaraabadaada xanuunsado qof hadduu wax u baahdo qof hadduu qaaraan u baahan yahay wax haday xaalad soo kordho waad igala hadli kartaa hooyadan anaaba hooyaday camal ula dhaqmo kaasoo waan biilaayo biil baan u diran meel u saaray ama walaalka miya anoo 10 sano jiraan shaqaysan jiran walaalka iyo ayeeydiiba biili jiray oo abidkay adduunyada intaan ku noolaaba qof bini aadan aan wax tarmoyn wax tar ma dhihin waa nin weyn oo ilaahay 30 jir ah ha shaqaysto ama sidoo doona ha yeelo mar dambe walaalka hay la soo hadal qaadin ani خلاص وحول قبل وي حنقدي وحتى قف حن أضل لعق هيستا dadka in lacag siisan ma ogolid walaalkay xataa oday adeerka miskiina tigidka ka bixiyay adigu xataa qof bakhayla oo gacan adag waxaan kugu sameeyay ma garanay anoo saa qurux badan bad bilaash igu heshay reerkayga ma lacag baad siisay oo waxaan bil walba siinaya soo lacag maaha waxaas maxay tahay 200 oo xun oo doolar oo biila wuxuu gabadhi balaadu kaali maslax baday walaalkeed markuu tagay xanaaq iyo caray ka qaaday walaalkeed waxaan isir bal hooyadeed intaad la hadashid كل كاليو قبلها الله هذا الإسلامي أنا ما أفكرني وحده هو يدين ويبحنا أقسنتها هي بقبلها بكسي درنتها ويلكو إنه يسوي شقيان ربي إنه كين يكشقيان ربي ويلكو هذا قصب وصادر ديارات بتصو صارت عرض أبتكود بتكود دعويسيو إسلام تين وحده هذا يبوق كلا شيء أنا أقول مسكوا عم سرير كمان أركب وحنا نسري قبلنا هذه حاجة كتنا أو قبلها هيك كذا رقنا يسنق قتنا حرقته هذه كلنا ده iskaga tagba marka tagto warqadeeda soo diray wuxuu gabadha uurba ku soo baxay marka mar aniga xilligan soo tagi lahaa waxay dhowr iyo 10 bari ay ka dhiman tahay baan arkay marka gabadha inay uur leedahay oo xanaaqsan tahay oo walaalkeedii la diray ka xanaaqsan tahay waxaan ku gabadha aan heshiino shaydaanka iska naar walaalka hadda soo muu tagin iska dhaaf ha jooga Soomaaliya waxba keenayno ku soo noqonine aniga adintaan heshiino si wanaagsan aan wada dhaqano inagu heshiisa aan ka tagaano markaan tagay dhowr iyo 10 bari baa yiri man waan tagi rabaa هاي waxay tiri marka waxa la rabaa de lacag aniga soo ma ogid reerkayga wiiliga gabadh baan oo hay reerkayga aniga dhowranayaan reerkayga aniga fiirsanayaan qofka kaliya waxaan ahay wax haysto qofka kaliya waxaan ahay lagu xisaabtamay soo ma ogid walaalkay shaqo abuur inaad u sameysay ahayd soo ma ogid walaalkay wuxuu gabadhii hada mowduuc aan walaalkay ahayn igala ma bahadlaysana walaalka waa qof weyn soo kaama weyn horta inuu ka yar yahay ba ka soo qaad soo nin ka weyn dhowr 20 jir ka ma aha haduu ugu yaray wuxuu waa 20 jir ama 27 jir gabadhanaaba weyn wuxuu 24 jir ah ahayd markaan guursanay walaalka waa nin ka weyn ama ha shaqaysto ama ha galgasho siigada haduu rabo sidoo doon ha yeelay walaalka inta mawduuciisa meel inaga dhigtay reerkeena armaan dhaqana gabdhaha qaar baa saasa wax reerkooda iyo wax ku saabsan iyo wax la xidhiidha sagaashan kaba ninka madaxa ku xanuujiyaa jira waxdan iyo duruuf iyo xaalad haday timaado reerkiina ku saabsan ninka waad kala hadli kartaa laakiin sagaashan kaba wax aan daruuri ahayn qofkii madaxa dad ku xanuujis ka waran walaashay baa halkan ka soo baxday walaalkayba telefoon laga xaday hooyadayba qof facday waxa soo kale qofka in madaxa lagu xanuujiyo ma fiican hadii aad lagu dhaqanayo oo meel degan tahay oo lagu beelayo nolol fiican ku nooshahay ayr gabadha marka la guursado waxaan laga rabaa inuu ninkeed meel intuu dejisto uu dhaqdo Soomaha dad dhaqasho haysatid alxamdulillah ayr reerkaaga dhaqo hooyada hadad wuxuu tari karto aabaha haduu xanuunsado gabadha wuxuu mid kale markaan sheekaysanayno aabaheed xanuunsanayo xataa mar baan lacag u diray aabaheed dhakhtar bay u qaaday Itoobiya ku soo dhintay buu aabaheed hatta aabaheedii dhintay baa wuxuu abaal ku leeyahay oo reerkan wax badan oo fiican baan u taray laakiin wiil wuxuu yiri weyno anigaba ila eg bay ka dhigaysaa ilmo yar oo ciyaaloon dhalay camal sida ilmo aan dhalin buu wuxuu igu xukumaysaaba walaalkaysaan maada u yeelin walaalkay shaqo abuur maada u sameeynin walaalkay hadada maxay u sameeynin qof maxay baa tahay qof sidana tahay wuxuu waan heshiin calay kul xaal markaan heshiin wuxuu gabadhi laba bari markay joogtaba bixitaankayga dhowr 10 bari baa ka dhiman saddex bari markay caadi hataa maalinta kala waatan way xanaaqsantay gafuurkay taagaysaa lacag baan rabaa walaalkay baan lacag u dirayaa qof baa lacag u baahan maxay baa sidana biilkii baa dhamaaday lacag baan u baahanahay waxba halkan aan rabay wax lacag waxay inaan ku qabsadaan qof noocaas oo Soomaaliya jooga u diray lacag kale aan ka doonaya wuxuu gabadhi dabeecad nooc kale ay la soo baxday wuxuu markaan arkay gabadhi inay isbedesho uur yarna way leedahay marka waxaan isla waxba ku buuqin had qofkan ayada uur leh inta iskaga aamusto sheeb ka dhaxdidka aamusnaatid marka tagtid markaas oo warqadeeda aad soo dirtid wuxuu waxaan ku dhaanaa waxaan ku sheegaa biil hooyada $200 baan u diraan meel u saaray wax alaala wixii biil aad u baahan tahayna waan ku siin wixii kugu filan inta ku soo diri jiray biilkaaga caadiga ahayd qaadan jirtay walaasha iyo ayida iyo walaalka iyo qof kale oo bini aadan ilmo soo hadal qaadi kartid خلاص وحرسان اسو حناقسن انت انكو اسو حناقسن يدنا حناقسن tahay انا waligaaba xanaaqsano hadaa doonto oo laba hadlin oo aan si fiican isula hadlin oo aniga fasaxayga dhamaaday wuxuu markaan tagay baan dharkayga waxay iga soo arursaday anoo dharkayga arursanay soo agstaagtay waxay tiri waxaan shukumaankan iyo macawistan iyo maradan kale iyo waxyaalahan yaani culays in bay kugu dileen boorsada ka culaysaneen ma iskaga tagtaa ku yaalaan
kuma soo noqonayaan inuu meeshan ani qof soo noqonaya ma ihi ma doonayo inaan soo noqdo saas miya hayo way garabkaaga tiri maca salaam aday ku taala hadaad soo noqonin ma ku kaxay airport ma ku geeyay maya waxba hay geeyni iska nastaan ku dhibay adaa xanuunsan airportna hay geeynin waan baxay week markaan joogay baan fariin u soo diray wuxuu yiri waxaan ku yiri fiiri ada uur baad leedahay waad iska xanuunsan kartaa cunto ma karsan kartid cunto in lagu kariyaad u baahan tahay hooyada inaad ag joogto iskaga fiicnaan lahayd kolba wixii aad u yara baahatid ay hooyada ku sameeyso reerkiina u tagtid intaad alaabta gadid oo nool ka dhigatid lacagta bax oo guriga hooyada tag guriga hooyada markaad tagtid dee halkaas iska joog ku umul markaad dhashid oo ilmuhu xogaa ku weynaado markaas Nairobi ku soo noqon doontaa in guri kale ku kareen doonay hada alaabta iska iibi guriga hooyada aad haytir way baxday guriga hooyada markay saa u tagtay alaabtii iibisay lacagteedii wuxuu yiri waxaana tigid ka dhigatay wixii kalena lacagnimo ay ku qaadatay gurigoodii tagtay dhowr bari joogtay baan wacay bur marka adeeradeed iyo abtiyaasheed iyo markaan isdoonanayna dadkii ugu daran ku gabadhiina waan furayaa ani inaan furaan rabaa gabadhiina sababtoo ah ismaba xamili karaynaba isma hayn karayno waxaan rabaa marka inaan saas ku kala baxno uurna way leedahay biilkeedana meel baan u saaray waxa la sheedan kaska naarmiyad waanan tahay gabadheeda uur la furin suug ma furmayso hadhasho saan weeye u kaadi horta sheedanka iska naar sababtoo iyadii markii la yiri ninkii wuxuu yiri waan gabadhi waan furayaa sidii berigii kale wuxuu yiri u waalatay marka hay furidee miyaad waalan tahay maxaa ka qaldan waad khiyaantay maxaad ilahayd guriga hooyadaasi tagay run baan mooday hooyada u sii tag markaad ilahayd ma waxaan walaalay anigu adna dhib baan kugu hayaa iyo culays oo sidaad rabto igama helaysid anna dhibaataan kugu dareemaya iyo culays oo sidaan rabo kaama helayo hadaynan habi isku dareemeyn maxaan isu culaysanayna marka saas aan ku kala hawl fududeysano gabadhi waxay tiri may saas ma hadda waan xanuunsanahay waxaan ku dhibano soo fiicno marka walac ka baxday fiicnaatid markaas aan wada hadlayna de gabadhi wuxuu yiri mid khadka iiga baxdaaba waxaan rabaa inaan maxay heeday sheedanka iska naartid mar dambe walaalkay kulma soo hadal qaadayo cidna kulma soo hadal qaadayo hadda hooyaday biil iisiisid waad mahadsan tahay saas markaan u tagayna wuxuu xataa waxaan go'aansaday maamada biilkan u soo diray xataa inaan ka sharo iyada $600 baan u soo diray Nairobi markay joogtay hooyadna 200 soo 8 maaha iyada iyo macal hooyada waxaan ku yiri 200 baan idin soo diraya miyaad waalan tahay sayani 200 iigu filnaani 200 yaala marka ma hooyaale ma waxaale aniga biisha ma waxaan ribiri walaalkaasi 200 ba hadaa rabtid walaalkay soo walaalka maada madax ay waxaan oojinin 200 baan ku soo diraya 200 ba walaalkaasi adigii hooyada waxaad biil ka dhiganaysaan deedinkeedii inta la hay wareerin ani 200 waxaan ahayn kuma soo dirayo aan xaaskayga baa tahay uur baad leedahay guriga hooyada abahaba joogtaa wax biil oo kaliya kugu baxaya ma jirto wax guriga gaar u degan tahay ma jirto 200 bas saan idin soo diraya ama walaalkaasi ama adii hooyada cuna ama idinka idin taala gabadhi wuxuu markay khadka iga bixi waday wareerisay taleefanka dhan waa iska bedelayba ayada darteed wuxuu nambarkayga ugu guuray intaas oo sana aan isticmaaliyeen haystay 2 bilood markaan ka aamusnaa oo shib ka ahaade biilna aan u dirin baan markii dambe nin ay qaraabo yihiin baan wacay adeerkeed wiil u dhalay baan wacay lacag baan ugu dhiibay waxaan ku yiri gabadhii xaaskayga ahayd lacagta iigu gee waa biilkeedii oo 2 bilood ka aamusnaa baan biil u dirin labadeedii bilood biilka iigu gee lambarkaygana Allah haduu Allah yahay oo islaam tahay ha soo siinin wuxuu wiilka lacagta u diraa wiilku lacagta EFC ahaan buu ugu sii diraa screenshot buu EFC ga ka soo qaada aanu ii soo diraa wuxuu dhahaa waa biilkii waan u diray bil walba wuxuu wiilkaas aan biilku u diraa 3 bilood markii wiilka u diray gabadhii wiilka u kadeedaysay ay u ciqaabaysay nafta ugu keenaysay lambarkayga maalinkii dambe uu soo siiyay lambarkayga markuu soo siibay uurkayga uu soo weynaaday oo waan xanuunsanahay oo isbitaal baan tagay oo computer baa la saaray oo waxa la yiri mataanaad wada hay khayr Allah ka dhigo mataanaha markay dhashaan ana biili adigana wax walba oo u baahan tahay waan ku siin laakiin walaalay kuma rabo inaan kala tagnaan rabaayo inta ogow maya miyaad waalan tahay ma gabadhan oo mataana ku dhashay baad furay soo diga dhihi jiray carruurta waan jecelahay soo diga dhihi jiray ilmaan rabaa maya waxaan dhibir ilaahu ma shan isla socota dhashid awal gabadh baan kala tagnay carruur bay ii dhashay waan biilaa qurux iyo sharaf bay iigu nool yihiin adiga iyo kuwaagana waan idin biili laakiin aniga adigu inoo kala dhamaatay reernimada bayna ma dhax taalo wuxuu gabadhii hadda 8 bilood bay maraysaa talada waxa keenay marka gabadhii waxay maraysaa 8 bilood uurkeedii wali ma dhalin waxaana la yiri 2 ilmood mataana ahad wada ilaahay khayr ha ku kala keeno khayr Allah ka dhigo wuxuu yiri hooyadii ayidi waliba isla degan yihiin wuxuu ku biilaa Muqdisho anigu wuxuu yiri marka qof 24 ka saac lacag la iska dadaadiyahay mi anigu wuxuu lacagta waan soo xamaali baan ku keen lacag la khasaariyo la iska dadaadiyo qofkana lacag u baahan qofkana ay soo waxaas iska rarabtaa buu gabadhan hooyadii ayidi wuxuu biil baan u diraa hooyadii carruur yar bay haysataa hooyadii
iyo carruurteeda iyo ayeedii oo hal meel waan biilaa gabdhahaygii wuxuu yiri oo gabadhiisii curad iyo gabadhii ku xigtay ahayd wuxuu yiri gaar baan u biilaa gabadhan hooyadeed biil $200 waxaan u diraa iyada wuxuu yiri biil baan siin jiray anoo iyada biila oo hooyadeed biila oo hooyadii iyo ayeedii biila oo xaaskaygii horeen kala tagnay carruurteedii ku biilay gabadhina waxay rabtaa buu 9 lacag sida tuumbadii iska soconaysa walaalkay lacag si walaalkay shaqo abuur u samee walaalkay saandhe walaalkay noolkii baad ka bixin weyday walaalkay wuxuu waxaan go'aansaday oo go'aan ku gaari gabadhina halka ku kala dhamaano mataanaad sheegi ilaahow miba 18 ilmood isla socoto dhasho wuxuu yiri marka hooyaday iyo ayeediba waxay yiraahdeen nin fiican oo darisnahay oo qaraabanahay oo hebel la dhaho gabadhu dhalay oo yaro fiican oo 14 sano u jirta yar oo gabadh yar oo qurux badan oo ragga dhan ay isku dilaan oo maanta dhan la soo doonto oo gabadh yaro fiican oo xaafidul quraana baan ku siinaynaa reerkaas aan gabadha kaaga doonaynaa waxaan yiri buuraan ilaahay ka baqa hooyo ay sheedaanka iska naara gabadh baan kala tagnay ciyaal ii dhashay to kale oonaan is arag mid kale 2 jeer intaan u tagay dhafoorada anoo iqiiqayaan oo shahaadana 2 jeer baan ka soo noqday ma mid shanaad ba doonaysan inaad ii guursan gabadh dambe 10 sano kadib baa laga yaabaa inaan guursado mar rabaan iri buur gabadh dambe alihiin aduu leeyahay gabadh yarna ma rabo tu weyn ma rabo tu dhaxdhaxaadana ma rabe halka igaga xidho guur iyo sheekadiisa ma ay leeyihiin buur marka hooyaday ayday maandhow ku duceynayna duca ma rabtaa gabadhaas aan kugu darno wuxuu marka anigu ma rabo hadda gabadh kale in la igu daro middan xaamilada ahna intay dhalaysa bas aan sugayaa buu anigu mar rabo inaan ku noqdo iyo dib dambe inaan ugu tago iyo mar dambe inaan muroonan aniga gabadhaas isjijiidano wuxuu ma rabo gabadhii marka xaamilada ahayd iyo hooyadeed 9 wuxuu way soo wacayeen maamadu mararka qaar dhowr iyo 10 cod bay ii soo duubay oo 30 daqiiqo iyo 40 daqiiqo iyo 45 daqiiqo gabadha hadda waa xaamilo gabadha dhiikar inuu ku dhuftaan ka baqayaa way ku jeceshahay way ka fikirtaa gabadha reerkeeda way dhaqanaysaa xataa waxay igu tiri buur maamada biilka aad ii soo dirtid xataa 200 markaad gabadhan yani inta iga tagtaa iyada meel dejisad biilaysa xataa ani waxba ha ii soo dirin shilin xataa ha ii soo dirin ani gabadhaas uu iga dhaqo waan ku barayaa hadda ilaahay baan kugu dhaaray hooyo gabadha furin ninkiina idin dhex wareegayay in isdagaashan sababta u ahaana dib dambe meel aad taagantahay meel aad joogtiyo gurigaaga dambe dib uma imanayo raale hubay ileedahay marka wuxuu yiri maamadaas markay ila hadlayso qof weyn oo maamo hooyadii oo kala weyn wuxuu waan ixtiraamayaa hayana ma dhihi karo igala ta gabadhaadii adiga toona idin ma doonayeen ma dhihi karo wuxuu yiri gabadhiina 9 way igu calaacalaysaa waana xaamilo laakiin wuxuu go'aankaygu saas markay uu musho inaan furo buuq baa wuxuu marka dhinaca igaga furan ayeeyday iyo hooyadayna gabadh kale baan ku guurinaynaa bay leeyihiin oo gabadh baa fiican oo ku soo helnay oo reer halkan degan gabadhooda gabadh fiican oo gabadh yar gabadh yar baan kugu daraynaa bay taagan wuxuu gabadh baa meel meeshana la iigu hayaa diyaar la ii leeyahay taa diyaarka la ii leeyahay ma rabo midan xaamilada ii ahna wuxuu ma rabo laakiin labada dhinacba buuq baa igaga furan waxaan sameeyo ma garanayo ma midaan igu calaacalis ilaahay haduu nabad ku kala keeno markay dhashay ilmaheedu u koraan baan iska soo cishadaayo midaanan يعني أنا أصلا نقضايون إسكالجوجايون ونحوهاي يعني بالفيريا إني هجاجي إن كله صوبتها وحول حتى قبلنا أنا مرة بعد ما آمني خرو مر بيتر وان هجاجيا ونسبدليا وفعنانيا وانو إمدوي هجاجتي بالمركي هجاج سند باللباد وحول ويا حلو ده أنا سيدي هرب صون نقطين مسه قبلنا أنت نسكت يوم فرح كقاعدو وان مركي هذا الشيء اللي مهذا وكراني دور بيروت شوجان أنا مرقدي هذا أصادره بيلنا إيدي اللي مهذا عن ماله صاروا waxaan sameeyaa buu yiri aan gabadha ayday iyo hooyaday ay leeyihiin waan ku siina ma raaca gabadha hadaan wuxuu yiri u tagi lahaa dhihi lahaa igu darana ama aan ogolaan lahaa mar rabo yiri hadda guur dhan ma barababa guurkiiba wuxuu madaxa igu xanuunay aan kharash iyo hantiiba igaga burburtay wax hadda wuxuu yiri ilmahaas haday gabadhaas ii dhasho gabadhaas aan wuxuu yiri faa'iido ka haystaaba day gabadh oo yani ilmo ii dhasho ilmo aan aabo wax adduunka iigu soo kordhisay mid ba iga burburtay to kala iga burburtay wuxuu midii kale guursadeen jeclaadana saanay noqotay kuwii aan la sheekaysanayeen jeclaanay baa wuxuu yiri fahmi la ahay mid banaan iyadoo isku joogta la ii soo doonay la isiiyeen ma rabo mid kale guurna hadda wuxuu yiri ma barababa waxaan islahay break 10 sano aqaado 10 sano kadib mar guursada gabadh fiican aragtid ma hooyaday ayadii baan wuxuu warkooda qaataa ma gabadhan kale igu soo calaacalaysa warkeedan qaataa ma wax oo dhanba warkooda miyaan kansala waxaan sameeyay ma garanay si raaxale uma joogo uma shaqaysan karo wuxuu dhinacna buuq baa igaga furan xaaskayga dhinacna buuq kale ayadii iyo gabadh yaray ila daba ordayana igaga furan iyo hooyaday waxaan sameeyay ma garanay waxaan go'aansanay sheekadeeda soo gudbiyo Soomaali Maxamed u soo bandhigo marka la dhageysto sheekadeeda marka wuxuu asxaabta qaaliga soo qalib ku xiran aad dhageysataan waxa alaale wixii ra'yigiina commentiga iigu soo qora maxaan sameeyaa qof walow marka adoo Saciid iska soo qaadaya wixii aad sameyn lahayd ee wiilka kula soo talin lahayd
kula soo tali inuu gabadha ayadii iyo hooyadii ay ku darayaan uu yeelo inuu gabadhaas iska diido inuu midan xaaskiisa markay dhasho uu soo noqdo inuu iyadana iska diido markay umusho intuu soo furo uu waxa dhanba faraha ka qaado Yurubtiisa iskaga maqnaado maxaa talo oo soo siinaysaan tala kale intaas oo dhanba ka duwan wax alaale wixii ra'yigiina qof kasta qaybta commentiga ha ugu soo qoro halka markay maraysa sheekadu muuqaalka like saar channelka subscribe video share garee asxaabtaada la wadaag commentiga khafiifka latiifka haliya laba wixii ra'yigaaga qaybta hoose faalada noogu reeb haddaad nala soo bilaabatay oo halkan nala soo gaadhay samirkaaga jannada ku gali doontaa insha Allah ilaahay fadligiisa jannadiisa inuu galiyo aamin faamaan illah